markale soo dhawaada khiyaaray maanta waxaynu bilaabi doonaa season cusub. Seasonka waxaa lagu magacaabaa hierarchy. haddaba haddii aad ku cusub tahay channelka waxaan idinka codsanaa inaad subscribe saartaan, sidoo kalena muuqaalka aanad legta la dhaafin. imikana aynu bilowna seasonkii ku soo dhawaada. haddaba muuqaalka ugu horreeyay seasonka waxaan arkaynaa ninkan idin muuqda. iskuulkan cusub wuxuu ku soo biiray waqti aan sidaa u sii fogin ka hor. haddaba ninkan isagoo iskuulka ku cusub dhacdo u fiicnaan lahayd inaanu arkin ayuu arkay, isagoo isla markiiba argagaxay oo cararay, taleefonna qabsaday si uu waco booliiska. laakiin ugu dambeyn markii ayuu go'aansaday inuu meesha ka baxsado, isagoo si cararayna gaadha ayaa ku dhuftay, kadibna si xun ayuu dhaawacmay. idhiguu iskuulka ku dhiganyana dhulka ayuu ku dhacay. waqti kadibna waxaan arkaynaa arday cusub oo kasoo biiraysay iskuulka, waxaana lagu bedelayaa meesha ardaygii dhintay. waqtiganna wuxuu ku beegnaa waqtigii la furayey sanadka cusub ee iskuulka. kadib waxaan arkaynaa wiilkan kanhaaga lagu magacaabo, kaasoo isagu iskuulka ku soo galay scholarship, iyagoo ay ka bixiyeen gruubka iskuul kale ee Jushan lagu magacaabo. dhammaanba ardaydii meesha dhiganaysana ninka way soo wada eegisay, sababtoo ah iskuulkan waxaa dhigata oo keliya ardayda taajiriinta, halka kanha uu ka ahaa arday faqiira. laakiin miskiinkani kama warqabin waxa ay dadkani samaynayaan, dhammaantoodna wuxuu weydiistay caawimaad. kadibna waxaan arkaynaa arday xaragoonaya kaasoo lagu magacaabo Rion, waana ninka haysta abaalmarinta iskuulka ee sanadka. sidoo kalena waxaa awow ah odayga iskuulkan aasaasay. intuu meesha maray u fadhiisanayeyna mikrofoonkii waxaa laga xidhay wiilkii hadlayay kanha lagu magacaabayey. markuu sidaa u fadhiistayna kanha waxa loo furay mikrofoonkii, hadalkiisii markuu dhammaystayna meeshiisa ayuu iska soo fadhiistay kanha. kadib marka xafladda furitaanka la dhammeeyana ardaydii waxaa loo sheegaya inay qof u kacaan, uu qof walba galaaskiisa galo. kadib waxaan arkaynaa kanha oo isagu iska kacaya dadka aan kicin, maadaama ardaydoo dhamme ay wada sugayeen inuu ugu horkaco wiilkii iskuulka ugu caansanaa lagu magacaabayey Rion. kadibna waxaan arkaynaa kanha oo la hadlaya ardayda mid ka mida, isagoo weydiinaya sababta waxaan oo dhan ay u samaynayaan. laakiin hadalkiisa waxba kama soo qaadin, meeshiina uu kaga kacay oo umuu jawaabin xataa. kadib waxaan arkaynaa gabadh soo kacday iyadoo isbaraysa kanha, waxaana iskugu sheegtay in magaceedu yahay Hira. kadibna waxay weydiisayba taleefon nambarkiisa. kanhana wuxuu ogaanayaa in markii ugu horreysa la soo dhoweynayo, sidaa darteedna taleefonkiisa ayuu qorayaa. waxaanu kadib weydiinayaa halka uu ku yaallo galaaska Englishtu. kadibna markay u tilmaamto kanha wuxuu tegayaa galaaskii. markuu galaaska galano macallimada ayaa ka soo saaraysa iyadoo u sheegaysa in galaaskan loogu talagalay oo keliya ardayda heerka sarraysa. waxayna u sheegtay inuu galaaska la galo. kanhana wuxuu iska tegay galaaska ardayda caadiga loogu talagalay. markuu sidaa galaaska u galana xataa ardaydii galaaska caadiga joogtay way iska ururinaysaa. inuu safka hore fadhiistana way u diidayaan, sidaa darteed xagga dambe ayuu iska fadhiisanayaa, weliba kursi jajaban ayuu ku fadhiisanayaa. dhanka kale waxaan arkaynaa arday ka mid a ardaydii taajiriintaha oo ku nasaacinaya qol gooniya, iyagoona isteelkooda ku saxaya. ardaydana waa ardayda ugu darajada sarraysa iskuulka, sidoo kalena ugu caansan. waxayna ka kooban yihiin 4 qof oo uu ka mid yahay wiilkii la buurbuurinayay Rion lagu magacaabayey. sidoo kalena waxaa ku jirta gabadhii Hira lagu magacaabayey, iyo weliba wiil kale oo lagu magacaabo Wuji, iyo gabadh afraad oo iyadana lagu magacaabo Cheyi. laakiin Cheyi maanta iskuulka ma iman, sababta darteed saddexdooda ayaa halkan fadhiya. kadib wiilkii lagu magacaabayey Wuji taleefon ayaa kusoo dhacay, dibadda ayaan u baxayaa. Hirana intaas ayay ka faa'iidaysanaysaa, waxaana isku dayaysaa inay u dhawaato Rion. inkastoo Rion saaxiibadiisa ay tahay Cheyi oo maanta maqan, waxayna weydiinaysaa inuu raaco airportka si ay u soo dhaweeyaan Cheyi oo soo degaysa. laakiin uu ka diidayaa, iyaduna keligeed ay airportka aadaysaa si ay u soo dhaweyso Cheyi. kadibna waxaan arkaynaa gabadh aad qurux badan oo soo degaysa, magaceeduna waa Cheyi, waana gabadhii la soo dhaweynayey. Hirana gacanta ayuu taagaysaa Cheyi. markay gaadhiga soo koraanna Hira waxay weydiinaysaa Cheyi sababta ay ula soo xidhiidhi weyday, oo weliba 3 bilood oo dhan ay ugu maqnayd dibadda. Cheyina maadaamay daalanayd, su-aasheedii ugama jawaabin, beddelkeedana waxay weydiisayba inay u ballamiso saaxiibadii ay isku gruubka ahaayeen, iyadoo rabtay inay wiikendiga wax u sheegto. Hirana way la yaabaysaa, waxayna sheegtay inkastoo ay la yaabta haddana dalabkeeda way ka aqbalaysaa, waxayna fariin u qoraysaa gruubka ay ku wada jireen 4tooda ugu sarreeyay iskuulku, iyadana u sheegaysa labadii nin kale inay Cheyi rabto inay la kulanto wiikendiga oo ay rabto inay wax cusub u sheegto. labadooduna way yaabayaan markay fariinta akhriyaan. kadibna waxaan arkaynaa Cheyi markii gurigooda sidaa ugu soo noqoto in faamiligooda ay u qabanayaan xaflad soo dhoweyna. waxaana xafladda lagu casuumiyaa dhammaanba dadka caanka ah, maadaama aabaheed yahay lacagley. kadib halkaa waxaynu ka arkaynaaba in kanha uu yahay wiilka tumiya biyaanada. waxaanu indhaha ka jeedin laayahay Cheyi oo meesha fadhida, isagoo aad uga helay. Cheyina xafladdan aad ugumay faraxsanayn, sidaa darteed hore ay u cuntay wixii ay cuni karaysay. waxayna go'aansatay inay iska baxdo oo dadka ugu horrayso. aabaheed ayaana kasoo daba dhaqaaqaya, isagoo weydiinaya inay xafladda ku faraxsantay iyo in kale. laakiin waxay u sheegaysaa inay daalan tahay, sidaa darteedna ay rabto inay gudahaas kasii gasho. aabaheedna wuxuu u sheegayaa inay hadhow soo degto si ay dadka shaaxa ugula cabto meesha la fadhiyo. sidoo kale wuxuu sheegaya inay maryaa iska soo beddesho, maadaama aanu rabin inay hooyadeed u ekaato. aabaheed ayayna weydiinaysaa hooyada uu sheegaya ciday tahay. aabaheedna aad ayuu xanaaqayaa, waan ku qaylinaya. halkaana waxaynu ka ogaanaynaa in islaanta Cheyi imika hooyada oo aanay ahayn hooyadeedii dhabtahayd ee tahay xaaska aabaheed. aabaheedna aanu rabin in hooyadeed ay soo xasuusiso. markay aragtay inuu xanaaqayna aabaheed way raali gelinaysaa, waxayna u sheegaysaa inay samayn doonto wuxuu doonayo. sidoo kalena wuxuu ka baabinaya wixii dibna ay marsanayd, waxaanu u sheegaya inay mid kale soo marsato. weliba uu kusii qaylinaya, waxaanu u sheegayaa inay u dhaqanto sida inuu dhalay ninka madaxda ka ah shirkadaha waaweyn ee Cheyi lagu magacaabo. markuu sidaa uga dhaqaaqana Cheyi way xanaaqaysaa, wixii ay xidhnayd ayayna iska saaraysaa. kadibna waxay tegaysaa meel
meel si ay ugu soo cabto baasheeray sida meesha istaagneed dhinaceedana waxaaba taagnaa Kanha oo arkayay waxa ku dhacay gabadhan Jay kadib waxay la hadlaysaa Kanha iyadoo sheegaysa inuu sheer siiyo maadaama meesha ay qaboweyd sheerkiisa ayaan u bixinayaa waan u siinayaa marka xidhatana meesha way iskaga tegaysaa isaguna kadibna uu dhaxmoonayaa kadib waxaan arkaynaa Jay oo rabta inay la kulanto saaxiibadeeda isku gruubka ahaayeen marka sidaa ugu tagtana way la yaabayaan waxaana xidhan tahay kadibna sidoo kale waxa meesha imanaya Ryan ninkii lagu magacaabayay isagoo eegay Jayna waxaan arkaynaa ninkan ay xanaaqsantay waxayna u sheegaysaa in labadooda ay tartamaan oo waliba ay gaadhi ku tartamaan qofka badiyana uu labadooda ka kale u fulinayo waxa uu rabo kadibna Ryan waxa weydiinaya waxa ay Jay doonayso ama ay rajaynayso haddii ay guulaysato kadib waxay ku jawaabaysaa marka hore la tartan markaas ay ogaanaysaa labadoodana tartanka ay bilaabayaan labadii kale ay Hira iyo ninkii kale wiilshan lagu magacaabayna natiijada ay sugayeen labadoodana wadada ay ku tartameen waxaana markii hore hogaaminayay ninkii lagu magacaabayay Ryan oo la filayay inuu hogaaminayo tartanka sidoo kalena waxa la arkayay in Ryan uu diiday Jay inay dhaafto halka Jay ay ka go'oonad inay ku guulaysato tartankan iyadoo xataa nafteedaba eegin sida darteedna waxaan ogaanaynaa in Ryan wadada u banaynay markuu arka xaaladeeda isagoona iska dhigay inuu gaadhigu ka xumaaday halkan waxa ku guulaysanaysa Jay oo tartanka sida ugu guulaysanaysa Ryan mar dambe ay meesha soo gaadhaya markuu sida u soo degana wuxuu weydiinayaa waxa ay rabto waxaan markaaba u sheegaysaa inay rabto inay kala hadhaan oo sababta ay tartankan u guulaysay baa ahayd inay isaga ka hadho labadii saaxiibada ay kalena marka hadalkooda sida u maqlaan meesha way iskaga tagayaan iyagoo isku daynaya labadooda Ryan isagoo yaaban ayuu kaliya eegayaa kadibna wuxuu weydiinayaa sababta ay u rabto inay isaga ka hadho iyadoon su'aasha uga jawaabina waxay iyaduna weydiinaysaa sababta uu iyada ku jeclaaday ama waxa uu daba socdo wuxuu ugu jawaabana u garan waayaa sida darteed waxay odhanaysaa ma jirto sabab aad ku jeceshahay waana inaynu kala hadhnaa laakiin Ryan uu qaadan waayaa iyadoo sii dhaqaaqaysana wuxuu ugu dambeyn isku dayaa inuu qanciyo oo uu sheego inay rabaan inay saaxiibo kaliya noqdaan iyadoo aysan meesha iskaga tagaysaa Ryan meesha ay sidoo taagnaanaya isagoo aan garanayn waxa uu sameeyay maalinta xigtana waxaan arkaynaa Ryan oo galaaska yimid ardayda iskuulaaska ayna waxay arkeen in gacanta uu ka dhaawacan yahay kadibna iyagoo xashaashaqay waxay isweydiinayaan waxa ku dhacay ninkii ugu sarreeyay iskuulka Jay laftarkeeduna galaaska way fadhiday waxayna aragtay isagoo gacanta ka dhaawacan wax yar ayna ka warwartay kadibna waxaan arkaynaa Kanha oo u malaynaya in Jay ay soo eegayso gacanta ayaan u taagayaa macallimada ayaana galaaska soo galaysa warbixin muhiim ayayna u sheegaysaa ardayda laakiin Kanha uu fahmi waayaa markuu sidada ardayda weydiina ardayda qof u jawaabo uu ka waayaa oo dhammaan way soo dhaafinayaan macallimaduna kadib waxay u yeedhaysaa ardayga ay galaaska u dhiibatay u maamulayay iyadoo u sheegaysa in galaaska aan la iska soo gelin karin cid walba maanta wixii ka dambeeyana uu ka digtoonaado kadibna Kira uu baqanayaa Ryan ayna kadib arkaynaa oo fadhiya meeshii ciyaariyay kubadda rugby loo yaqaano laakiin wax niyadu mu hayn inuu ciyaaro kursiga kaydka ayaan u fadhiyay isagoo saaxiibadii la fadhiyana wuxuu weydiinayaa sababta ay Jay uga tagtay inkastoo xiriirkooda fiicnaa isaguna aanu samayn wax qaldan saaxiibadiina waxay ugu jawaabayaan in gabdhaha badanka in la fahmay adag tahay waxa kaliya imka isagoo bannaana ay tahay inuu raali geliyo Jay Ryan ayaana sidaa u sheegaysaa waxayna ku odhanaysaa weliba waxaa laga yaabaa inay ku cafiso haddaad raali geliso waxayna sidoo kale u sheegaysaa inay caawinayso isaga iyadoo Jay u yeedhi doonta labadoodana iskugu yeedhaysaa dhanka kale waxaan arkaynaa Kanha oo sii koraya jaranjarada garoonka balse arday fara badan ayaa hor istaagaysa iyagoo ku xaynaya qol cidlaa markay qolka sidaa u geliyaanna gruubka saaxiibada waxay u sheegayaan inuu ogaado positionkiisa weliba waxay xasuusinayaan inaanu ka xanaajin ardayda taajiriinta ah iyagoo si raaciyay inaanu kaalinta koobaadna geli karin sidoo kale halka ugu dambaysana aanu noqon karin oo meel dhexe uu noqdo sidoo kale waxay u sheegayaan in ardayda taajiriinta ay iskuulkan ka yihiin qayb muhiima maadaama iskuulkaba ay maamulaan aabiyaashood sidoo kale waxaynu halkaa ka ogaanaynaa in ardayda taajiriinta ay iskuulka lacagta ka bixisa iyo weliba kuwa scholarshipka ku dhigta ay ku kala duwan yihiin tayga ay xidhan yihiin iyadoo ardayda taajiriinta tayigoodu yahay mid casaana halka kuwa scholarshipka ku dhigta uu yahay buluug ardayda nimka la talinaysana waxa weeye ardayda iyaguna scholarshipka ku dhigta iskuulka maadaama ay isku level yihiinna waxay uga digayaan dhibaatooyinka dadka taajiriinta ah laakiin hadalkooda Kanha dhig uma dhigin isagoo muujiyay inuu isku kalsoon yahay wax walba oo ay ku sameeyaan oo uu sabri doono laakiin mid ardayda kamid ayaa ku soo dhawaaday isagoo u sheegay inuu positionkiisa ogaado ardayda iskuulka scholarshipka ku dhigataana ay tahay arday aad u yar weliba wuxuu raacinayaa inuu jiray arday scholarship ku dhigan jiray oo sidiisoo kale madaxadka laakiin waxaa ciqaabay Ryan sida darteedna iskuulka looga saaray Kanhana hadalka ardaydan isku galaaska yihiin isku scholarshipka yihiin waxba kama soo qaadin waxaan u maleeyay inay kaftamayaan oo xataa wuxuu sameeyay markuu dibadda u baxay wuxuu toos ugu tagay Ryan si uu soo salaamo saaxiibadii Ryan ninkan way eegayeen oo kaliya laakiin Ryan isagoo aan salaanti ka qaadan ayuu meesha iskaga dhaqaaqay ardaydii imka la talinaysa ayaana kasoo dabacarartay Kanha iyagoo yaabay waxa uu sameeyey waxayna kala garan waayeen inuu ogaanu sameeyey inuu nacas yahay Hira oo meesha fadhida ayaana u sheegtay inay caadi tahay oo istajiyo sidoo kale waxay ku casuuntay xafladda soo dhaweynta iyadoo u sheegtay in caawin qof soo diri doonto soo qaada meeshina way iskaga tagtay fiidkiina waxaan arkaynaa Hira oo soo qaban qaabisay xaflad ujeedaduna ay tahay inuu Ryan ku raali geliyo Jay Hirana waxay fariin u dirtay Jay
halka sidoo kale Kanhana ay gaadhi u dirtay si uu soo qaado. Kanhana isagoo waxba ogeyn wuxuu soo galay meeshii, moobilkiisana waxaa ka qaaday ragga security albaabka taagan. kadibna markuu sidaa u soo galo wuxuu arkayaa in xafladda oo dhamma ay tahay xaflad gabdheed oo cabitaanna lagu cabiyo sidoo kalena lagu jaasayo. halkaana wuxuu ka ogaanayaa inuu soo qaldamay meeshan aan u xiisaynin inuu yimaado. Hira markay sidaa u aragto way soo dhaweynaysaa, isla markiibana waxaa lagu bilaabayaa in la ciyaarsiiyo giimka la ciyaarsiinayana waxa weeye waxaa meesha lasoo dhigay 6 koob oo lagu shubay cabitaan. 5 ka mid waxay leeyihiin drogo, halka koobka 6aadna uu leeyahay cabitaan caadi oo aan waxba lahayn. Hirina markii uu guuraysay giimka ay gashay maadaama ay garanaysay halka koobka caadiga yaallo, waxay cabtay koobkii caadiga ahaa. Kanhana waxa uu soo haray 5tii koob kale, laakiin uu si dhiibay waxaan u sheegay inaanu giimkan ciyaarin, laakiin saaxiibada ayaa ku cadaadiyey. sida darteed wuxuu ku qasbanaaday inuu koob u qaato. koob ayaanu iska qaatay oo cabay. markuu sidaa u cabay cabitaankiina uu ka dhacay, xataa caadi ayuu socon kar waayey, iyagoo dadkii meesha fadhiyay oo dhamna ay ku wada qosleen. kadibna wuxuu tegey bathroomka, muraayadda ayaanu isku eegay, aad ayaanu xanaaqay. xafladda ayaanu kusoo noqday isagoo saaxiibada ay ciyaarayaan giim kale, halka Kanha uu keliya eegayay gabadhi Jayhee lagu magacaabayay. kadib waxaan arkaynaa in fariin loo soo diray Jayhee, waxaana u soo diray saaxiibkeed Rion, waxaana uu sheegay inay ugu timaado qol gooniya. markay qolkii gashayna wuxuu bilaabay inuu raaligeliyo, isagoo sheegay inaanu garanayn xataa wuxuu qalday amaba uu sameeyey, laakiin Jayhee raaligelintiisa kamay aqbalin. Rionna kadib wuxuu weydiinayaa sababta ay ku diiday, laakiin waxay u sheegaysaa inayna u sheegayn ilaa intay ka dhimanayso. Rionna kadib aad ayuu u xanaaqay. dibaddana waxaan arkaynaa iyadoo giimkii weli la ciyaarayo. Kanhana waxaa lagu carinayaa giimka inuu ciyaaro, marka laga guulaystana waxaa lagu odhanayaa waxaa samee. haddii uu samee waayana waxa qasaba inuu gabadh shumiyo, laakiin gabdhii meesha fadhiya oo dhan miduu ka shumiyo waayaa. waxaan u soo dhaqaaqayaa dhanka qolka ay ku jireen Rion iyo Janhee. halkaana waxaynu ka ogaanaynaa in sababta ninkan uu soo galay iskuulka inay tahay argoosi. qofkii ay sheegeen saaxiibadiisa scholarshipka isla dhigtaan ay Rion u dhameeyeyna uu ahaaba walaalkii, uuna ka soo qaaday ballan ah inuu soo argudo. gabadha uu doortay inuu dhunkadaana waxay noqonaysaa Janhee si uu uga xanaajiyo Rion oo meesha taagnaa. isagoo arkayna gabadha ayuu dhunkanayaa, kadibna Rion ayaa aad u xanaaqaya. ugu dambeynna xafladdu halkaas ay ku dhammaanaysaa. subaxiina waxaan arkaynaa Rion oo meel keligii fadhiya, isagoo weli ka fikiray wixii xaaladoola dhacay. inkastoo uu ku ciqaabay Kanha wuxuu sameeyey oo feer la dhacay, haddana weli way loobi laayahay. kadibna waxaan arkaynaa in Rion hooyadii soo degtay, waxayna ka timid dibadda, wiilkeedana waqti hore ayaa iskugu dambeysay. markay sidaa u timidna iyadoo aan xataa xaaladiisa weydiin, waxay u sheegaysaa inuu isdiyaariyo si uu raaco iyadoo dibadda wax ugu soo barto. laakiin Rion weli waxa uu hadhay 1 sano si uu u dhammeeyo dugsiga sare. hooyadiina xataa da'diisii intuu leekaaday kamay warhayn, maadaama ay sanado badan ka maqnayd. waxayna u malaynaysay haddii ay shaqaalaysiiso dhowr shaqaale kadibna ay cunugeeda u koriyaan inuu caadi noqonayo. halkaana waxaynu ka ogaanaynaa in ninkan uu aad u tabayey jacaylkii hooyanimo. kadibna meesha wuxuu iskaga tegay isagoo xanaaqsan, iyaduna shaqadeedii kale ay ku mashquushay. kadibna halkaa waxaynu ka arkaynaa in Rion kala dooranayo gaadhigii uu ku tegi lahaa iskuulka. maalintaana wuxuu dooranayaa gaadhi racing car inuu ka haysto. kadibna waxaynu arkaynaa albaabka hore iskuulka. Kanha oo aqoonsanaya arday hore wad dhigan jireen iskuul hore, laakiin wiilkan wuxuu iska dhigay inaanu garanayn Kanha uu is dhaafinayaa. saaxiibada ayaanu iska sii raacayaa. kadibna waxaa meesha soo istaagaya ardayda ay Kanha isku galaas ka ahaayeen, laakiin waxba kama soo qaadayo, isagoona aad uga niyad jabaya inuu dafiro saaxiib ay hore isku yaqaaneen. kadibna waxaan arkaynaa gabdhii galaaska dhiganayay oo weli la yaaban in Kanha maanta go'aansada inuu iskuulka yimaado. kadibna waxay weydiinayaan Hira waxa ka dhexeeya Kanha iyo Jayhee, waxaana u sheegaysaa in Kanha xalatoole ku dhiiraday inuu shubiyo Jayhee, isagoo weliban arkaya Rion. mid gabdhii ka midana waxay odhanaysaa ma laga yaabaa in waqtigaas Kanha uu daroogo isticmaalay, wuxuu samaynaya inaanu ka cabsanayn. laakiin gabdhii waxay ugu dambeyn isku raacayaan inuu qof khaldan isku doontay ninkani. kadibna waxaan arkaynaa Kanha iyo Rion oo iska hor imanaya, face to face ayayna isku soo eegayaan, wayna is hor istaagayaan. kadibna waxaan ogaanaynaa sababta Kanha u shumiyey gabadha Jayhee lagu magacaabo ayaa ahayd inay u sheegtay gabadh kale isku galaasiyiin in Rion uu aad uga xanaaqo waxyaabaa lagu sameeyey Jayhee, sidaa darteedna uu rabay in Rion ka xanaajiyo. sababtaasina ay weliba ahayd sababta uu dhintay Kanha walaalkii kadib markuu xanaaqay Rion. kadibna waxaan arkaynaa in Rion ogaanayo in Kanha aanu ka cabsanayn oo weliba aanu ka hor leexanayn. kadibna Rion meesha uu iskaga dhaqaaqayaa, laakiin Kanha uu sii eegaya isagoo aan wejigiisa wax cabsigii ka muuqan, isaguna meesha uu iskaga dhaqaaqayaa. kadibna waxaan arkaynaa Rion oo uu sii tegaya Jayhee, waxaanu ku eedeynayaa Jayhee inay adeegsanayso Kanha si ay u gabagabayso xidhiirka labadooda ka dhexeeyey. welibana wuxuu weli doonayay inuu ogaado sababta dhabta ay uga tagtay amaba ay xidhiirkooda u jartay, laakiin Jayhee way diidaysaa. sidaa darteed Rion wuxuu odhanayaa anaa soo heliyay sababtaad iga tagtay, meeshan uu iskaga tegayaa. markuu sidaa dibadda uga soo baxana waxaa ka hor imanayay saaxiibkii, isagoo saaxiibkii u sheegay inuu tallaabo ka qaado Kanha. waxaanu saaxiibkii u sheegay inuu Kanha u sheego in waxyaabaha isagu leeyahay uu ka fogaado. Rion saaxiibkiina kadib wuxuu toos ugu tegaya ardaydii scholarshipka ku dhiganaysay, dhammaantoodna wuu hanjabaya, waxaanu u sheegayaa in saaxiibkooda ay u sheegeen inuu ka fogaado Rion. sidoo kale iyaga laftarkoodana wuxuu sheegay inayna la hadli karin Kanha laftarkiisuna meesha ayuu fadhiyey, aad ayaan u qoslayey. Rion saaxiibkiina wuxuu sheegay raggan inay Kanha garaacaan. ardaygii hogaaminayna wuxuu isku dayay inuu Kanha garaaco, laakiin Kanha si fudud ayuu uga guulaystay, isagoona u sheegay inaan siga si fudud lagu dili karin.
kadib waxa galaaska sikadii soo gashay Jay Kanhaan isagoo ku maqan Jay oo eegaya waxa feer ku dhiftay wiilka hor taagnaa lagu soo diray markii hore haysteen macallimadii galaaska ayaan labadooda aragtay ardaygii wax feerayna galaaska ay ka saartay ardaydina waxay u sheegtay inay fadhiistaan oo ay dhageystaan warkan ay u sheegayso waxayna sheegtay in iskuulka Jiishaan uu qabsan doono kulan ardayda oo dhan waxay u sheegtay inay isdiiwaan geliyaan si ay uga qayb qaataan kulankan waliba sidoo kale waxay sheegtay qof kasta aan rabin inuu tago waa inuu saacad ka hor sii sheegaa Kanhaan kulankan muddaneynay sida darteed markii galaasku dhamaaday wuxuu ka daba tagay gabadhii Jay lagu magacaabayay isagoo rabay inuu wax u soo sheego laakiin markii hore istaaga wuxuu ka xishooday gabadhii kale isagoo wixii uu rabay dib u laqay laakiin Hira ayaa u sheegtay inuu sheego wuxuu doonayo waxaan u sheegay inuu karaali gelinayo wixii habeenkii dhaweyd dhacay Jay iyadoo aan iska waalinba waxay tiri waxaas waa wax caadi ah oo asxaabtu markay xafladaha joogaan dhex mari kara waxayna u sheegtay Kanhaan inaanu aad uga fikirin waxaas oo waliba uu ka soo qaaday inay u abaalgudisay markii uu shaarkiisa u dhiibay maalintii hore sidoo kale waxa uu sheegtay inuu hal wax oo kaliya sameeyo oo ah inuu iskuulkan iskaga baxo wana qaabka uga baxsan karo Rion Jay markii hadalkeeda dhameystay meeshii iskaga tagtayna waxa isku soo haray Hira iyo Kanhaan Hirana waxa uu sheegtay sababta uu Jay uga doortay gabdhaha kale oo dhan oo iyada xitaa ay ku jirto waxaan ugu jawaabay maadaama iyadu ahayd gabadha ugu quruxda badan leh kadibna meeshuu iskaga dhaqaaqay laakiin Hira ma rumaysan hadaladiisu inay dhab yihiin iyadoo qaadan weyday in Kanhaan uu dhaafsanayo noloshiisa oo dhan hal dhunkasho ama hal shumis fiidkiina waxaan arkaynaa Hira oo tagtay hotel si ay u soo eegtay Rion laakiin waxa aragtay Jay oo albaabka taagan laakiin aan gudaha soo galin Hirana markii uu timid isku dayday inay la hadasho Rion waxa arkaysaa isagoo daawanaya fiideo hore oo iska duubeen markay isla socdeen Jay fiideogaas oo labadoodan aad u faraxsanaayeen Hirana ninka waxa uu keentay qorshe cusub waxayna u sheegtay si uu soo ceshtay jacaylkiisa hore waa inuu la saaxiibo gabadh kale kadibna Jay markii aragtay waxa dhacaya iyo in wiilkii hore ay saaxiibka ahaayeen uu gabadh kale helay inaanay u adkeysan karin xaaladdeeduna ay isbedelayso laakiin Rion kama yeelaya gabadhan qorsheeda waxaana uu sheegaya halka ay kaga mashquul lahayd inay isku soo celiso dadka la tagay waxa ka muhiimsan inay soo baadho sirta ay qarinayso Jay maadaama Hirana ay tahay saaxiibada ugu fiican Jay wuxuu sheegay inay wax macluumaad oo ka soo heli karto kadib Hira waxay u sheegaysaa inay khiyaam karin saaxiibadeed laakiin dalabkiisa way ka aqbalaysaa waxayna odhanaysaa anaa soo baadhay waxay gabadhan qarinayso kadib xaflad kale waxaan arkaynaa Jay oo la fadhida ninkii Wuchan lagu magacaabayay isaga laftarkiisuna wuxuu rabaa inuu ogaado waxay qarinaysaa gabadhani iyadoo meeshiis ka fadhidana waxa loo soo dirayaa fariin waliba fiideo ah fiideogaasina waxa ku jirta iyada qofkana wuxuu ku hantiday inuu abeed u diri doono fiideogan iyaduna way yaabaysaa fiideogu wuxuu yahayna ma garanayso sidaa darteed aad ayay warwaraysaa wayna isku dhex daadanaysaa kadib iyadoo warwarsan meesha ay iskaga tegaysaa maalinta xigtana waxaan arkaynaa Jay oo abeed u raacday si ay u soo ugaadhsadaan iyadoo qorigii shiishaysana waxaa abeed soo wacaya taleefon markii moobilka abeed sida loogu soo dirana way isku dhex yaacaysaa waxayna u malaynaysaa inuu yahay ninkii u soo diriyey fiideoga kadibna waxay iska sawranaysaa iyadoo abeed qori ku hayo laakiin markii maskaxdeeda soo noqoto waxaa arkaysaa in abeed laga soo wacayba shirkadda qof qori ku hayaan aanu jirin horteeda taagan kadibna waxaan arkaynaa Kanhaan oo iskuulka jooga halkaana wuxuu ku arkayaa ardaydii taajiriinta ah oo daroogo kala wareejinaya waxaanu soo xasuusanayaa hadalkii walaalkiisa helintaan u dhiman ee uu sheegay in iskuulka daroogo lagu dhex gado laakiin Kanhaan waqtigaa muu rumaysan walaalkii iminka ayaanu indhihiisa ku arkay waxaan ogaanayaa in Rion kala wareejiyo daroogadan Rionna Kanhaan ayuu soo hor istaagaya waxaan u sheegaya in iskuulkan isagu uu ka taliyo siduu doonana uu u socdo oo waliba aanu soo fargashan waxyaabahan Kanhaan isagoo hortaagan ayuu yaabaya waxaan u sheegaya in ruuliska uu sameeyay isagu bedeli doono Rion wuxuu sheegay inuu sugayo bal wuxuu samayn karo kadib waxaan arkaynaa Kanhaan oo tareenka saaran oo gacantana ku haysta baashi yareed walaalkii haysan jiray waxaan u ballan qaadaya in walaalkii uu argudi doono intaa kadib Kanhaan wuxuu tagayaa macallimadii galaaska isagoo u sheegay wax walba uu arkay waxaan ku codsanayaa inay u furto meesha walaabta ku rito Rion laakiin way ka diidaysaa laakiin wuxuu gaan jabiyaa inuu booliska u sheegi doono wuxuu arkay oo dhan kadibna way yeelaysaa wayna raacaysaa waxayna soo furaysaa kabadhkii uu ninka Rion wax ku guranayay markii beesha sida u furtana waxay ugu tagayaan bakiinina caadi ah oo loogu talagalay inay ardaydu iskaga dejiyaan warwarka markay taxaanada galayaan walibana way soo qaadaysaa waxayna ka odhanaysaa Kanhaan soo baadhado oo dhakhtarada u geey markii sidaa u dhiibtana Kanhaan wuxuu ogaanayaa in macallimadan ay wax isku hubto sababta ay sidan oo dhan isku kalsoon tahay fiidkiina waxaan arkaynaa Hira iyo Jay oo wada kulmaya Hirana waxay u sheegaysaa Jay inay soo hesho qof hackera kaasoo soo ogaada qofkan u soo hanjabiyay iyada sidoo kale Hirana waxay la yaabaysaa sababta ayna uga baqanin Jay inay xaqiiqada sheegto waliba fiideogana waxa la duubay maalintii ay ahayd dhalashada ninkii Wuchan lagu magacaabayay oo waliba ahayd maalintii uu dhintay Kanhaan walaalkii kadibna Hira gurigooda ay iska tegaysaa iyaduna waxay ka fikiraysaa in iyada laftarkeedana fiideo laga hayo maadaama habeenka dhammaantoodba ay wada joogeen kadibna waxay go'aansanaysaa inay qof hacker iyadu shaqaaleysiiso si uu soo ogaado waxaan jira maalintii xigtayna waxaan arkaynaa ardaydii oo dalxiis u baxaysa kulankiina samaynaysa haddaba kulankan ardayda caadiga waxay ku tegayeen baska caadiga iskuulka halka ardayda qaar ee taajiriinta ahaa ay ku soo raacayeen gawaadhiyaga u gaara laakiin ardaydii ugu sarraysay sida Rion iyo saaxiibadii iyagu diyaaradda ay ku yimaadeenba meesha Kanhaana baska ayuu iska raacay kadibna waxaan arkaynaa aliflii galaaska oo la socda Kanhaan isagoo meesha lagu tartamaya geynaya waxaanu tusay qolka ugu dambeeya isagoo u sheegay inay tahay halka uu ku noolaanayo intan tartanku socdo waxaanu sidoo kale u sheegay inuu taxadiro kadib waxaan arkaynaa Jay iyo Hira oo jooga qolkoodii
goonidaha hiiraana waxay u sheegtay jeehi inay soo shaqaaleysiisay nin hakara kaasoo ogaanaya waxa dhacay oo dhan jeehina waxay weydiinaysaa hiira inay u sheegto ninka hakarka lambarkiisa si iyada laftirkeedu la wadaagtay macluumaadka halkaana waxaa ka shakaysa hiira oo ogaanaysa inay jeehi wax qarinayso kadib iyagoo wada fadhiyo wuu janaya albaabka kusoo garaacaya isagoona u sheegay inay wax ku wada cunaan halka ugu sarraysay dabaqa markay meeshiisa wada fadhiisteenba afartoodiba way seegeen wayna isla hadli waayeen kadib jeehi way sii fadhin kari weyday wayna iskaga soo kacday meeshii iyadoo sii kacsan riyon ayaa u sheegay sababta ay u baxsanayso waxaanay ka odhanaysaa markastoo wejigaaga xumaan arko aad ayaan u cadhoonaya mana sii joogi karo wujanna jeehi ayuu ka daba kacayaa waxaana isku soo hadhaya hiira iyo riyon hiiraana weli waxay daba socod inuu iyada la saaxiibo si ay uga masiirsiiyaan jeehi laakiin wuxuu sheegaya inayna taasi macquul ahayn jeehina aanay ahayn qof si fudud looga masiirsiin karo kadibna waxaan arkaynaa macalimadii oo kaanaha usoo dirsanaysa inuu dawo isu iibiyo markuu baaskiladiisa ka haysto ee uu dariiqa sii socdana wuxuu ku dhufan gaadhayaa jeehi markuu sidaa usoo istaagana iyaduna waxay ka odhanaysaa sii qaad waxay soo iibsanaysay waxay cabisay kadibna baaskilada ayay xag dambe ka koraysaa iyagoo wada socdana waxaa arkaya hiira iyo riyon markay sidaa u aragtana hiira waxay ku jeesjeesaysaa riyon iyadoo u sheegaysa in saaxiibadii laga qaaday riyonna kadib aad ayuu u xanaaqayaa kadib waxaan arkaynaa jeehi oo hawada freeshkaas si fiican u qaadanaysa markii baaskilada la saaran tahay kaanaha iyadoo weliba muudhkeeduna aad isku bedelay farxadna dareemaysa iyagoo baaskiladii wada saaran roob ayaa soo da'aya meel ayayna fadhiisanayaan oo ay roobka ka geliyaan iyagoo weliba meeshaa joogaya ilaa fiidka maadaama roob weynda ayaan ku noqon karin meesha ay ka yimaadeen jeehina aad ay ugu farxaysa arrintaa kadib iyagoo meeshii fadhiya waxaa soo cararaya ay yaroo dhala kaasoo biyaha ku seydhinaya jeehina aad ayuu farxaysaa wayna qosilaysaa sidaana kaanaha markii ugu horraysay wuxuu ku arkaya jeehi oo dhool caddaynayso aad u farxsan waxaan ku odhanayaa aad ayaad qurux badan tahay laakiin wuxuu sheegaya inay mar walba dhool caddayso jeehina waxay ku jawaabaysaa inkastoo ay tahay gabadh aad u lacag badan oo lacag leeya laakiin haddana aanay wax farxada haysan sidoo kale jeehi waxay weydiinaysaa ninkan sababta mar walba isagoo loo daandaansado haddana mar walba uu yahay qof positive oo waxaa loo geysanaya oo dhan aan danayn sidoo kale wuxuu sheegayaa inay qasab tahay inuu dagaalamo wax walba loo geystana uu kasoo horjeesto uu iska celiyo dadka soo weeraraya sidoo kalena wuxuu sheegay inuu argudayo walaalkiisi yaraa intaa kadib roobku markuu joogsan waayo jeehi waxay odhanaysaa meeshayda ayaan iskaga noqonayaa roobka ayayna sii dhex qaadaysaa laakiin waxaa ka daba cararaya kaanaha isagoona u gelinaya jaakad uu roobka kaga celinayo kadibna labadoodu way soo dulgoynayaan roobka dhexdiisa markii meeshooda soo gaadhana roobkii u istaagayaaba jeehina kaanaha waxay uga mahad celinaysaa wanaagga uu sameeyey sidoo kalena waxay ka codsanaysaa inay shaadhkiisa u qallajiso isaguna uu ku aqbalayaa waanu soo raacayaa labadooda markay sidaas ku soo raacaanna waxay wadagelayaan qolkii jeehina waxay ka caawinaysaa inuu qallajisto shaadhkiisa kaanaha markuu shaadhkiisa qallajistana waxay wada daawanayaan tv-ga kadibna kaanaha hurda ayaa qabanaysa waxaana ku kamayaa garabka jeehi laakiin way toosinaysaa waxayna u sheegaysaa inuu sariirtiisa tago uu halkaa ku seexdo laakiin haddana mar labaad ayuu garabkeeda kusoo seexanayaa markana way iska daynaysaa mana toosinayso kadib halkaa waxaynu ka arkaynaa in jeehi ay dareen u qaadayso kaanaha markuu garabkeeda ku jiifana ay wax dareemayso waxayna weli ka fikiraysaa wixii dhex maray markay xafladda joogeen kadib hadalkeeda waxaa maqlaya kaanaha waanu toosayaa labadoodana way isku soo dhowaanayaan laakiin jeehi waxay kaanaha gacantiisa ku arkaysaa silsiladii walaalkii xidhan jiray kadibna waxay soo xasuusanaysaa wakhtigii uu walaalkii caawiyey iyada kadib labadooda iyagoo wada jooga waxaynu arkaynaa in meesha ay soo galayaan riyon iyo islaantii maamulaha ka ahayd iskuulka labadooda markay isku aragtana kaanaha ayay qabanaysaa wayna dharbaaxaysaa laakiin islaantu jeehi lama hadlayso oo lama hadli karta iyada kadib maalinta xigtana waxaynu arkaynaa jeehi oo baadhisa qofka dhabta ee uu yahay kaanaha iyo sababta dhabta ee iskuulka uu soo galay iyadoona u dirsan nin soo baadha kadibna maalinta xigta waxaynu arkaynaa kaanaha oo lasoo fadhiisiyey meel ay ku wada sugan yihiin dhammaanba maamulka iskuulka si loo ciqaabo wixii uu sameeyey maamulaha iskuulkuna waxay soo jeedinaysaaba in iskuulka laga saaro iyadoo sheegtay inuu ku xadgudbay xeerarka u yaallay iskuulka iyo weliba shuruucdiisa kadibna waxaan arkaynaa kaanaha oo hadlaya isagoo sheegay in iskuulkan ay cadaalad darra ka jirto laakiin islaanta iskuulka ayaa sheegaysa in iskuulkan yahay iskuul sharaf leh oo aan cadaalad darra ka dhicin kadibna qolka ay fadhiyaan waxaa soo gelisay jeehi iyadoo u sheegaysa in iyadoo ay caysuuntay wiilka wuxuu sameeyey inaanay jirin weliba waxay sheegtay in wax shuruuca ay jabiyeen aanay jirin labadoodu kadibna waxay gacanta qabanaysaa kaanaha iyadoo dibadda ula baxaysa islaanta maamulaha ka iskuulkuna may joojin karayn markay dibadda u soo baxaanna waxay dibadda ku arkayaan riyon waxaana uu sheegayaa inuu imika la saaxiibay oo saaxiibadiisu ay noqotay hiira sidoo kale jeehina iyaduna waxay ugu jawaabaysaa in imika laga bilaabo si rasmiya u noqday saaxiibkeedu kaanaha sidoo kale waxay ugu hanjabaysaa riyon qofka taabta kaanaha inuu iyada taabtay oo kale riyonna kadib wuxuu ugu jawaabayaa inuu weli iskuulka isagu maamulo jeehina kaanaha ayay gacanta qabsanaysaa meesha inuu iskaga tegayaan markay meel bannaana tagaanna jeehi waxay weydiinaysaa kaanaha
sababta rasmiga ee uu iskuulkan u soo galay iyo wax walba uu yahay inuu sheego. kadib Kanha isagoo wejigiisa wax xabsi aan ku muuqan ayuu ugu jawaabayaa, macquul maaha inaan weli sii qariyo, sababta aan u soo galayna waxaa weeye inaan positionkaaga la wareego oo noqdo qofka iskuulka ugu sarreeya. weliba wuxuu raacinaya inuu rabo inuu jeebiyo xeerarka iskuulka u yaala oo ah ardayda scholarshipka kusoo gashay inayna darajo sare helin, sidoo kalena ayna waxbarasho dibadda helin. isaguna uu rabo imika inuu noqdo qofkii ugu horreeyay scholarship iskuulka kusoo gala, kaasoo heer ka gaadha weliba darajo sarena hela, sidoo kalena waxbarasho dibadda loogu diro. kadibna waxaan arkaynaa in Jihii hadalkiisa ay rumaysatay, maadaama markii ay soo baadhisay dukumentiyadii loo soo diray aanay ku jirin in wax walaalihi la dhashay Kanha. Jihii way rumaysatay, waxaana halka ka baxaysa shakiga ay ka qabtay ee ahayd inuu u soo galay meesha inuu aargoosto walaalkiisii dhintay sanad ka horna uu aargooyo. dhanka kale waxaan arkaynaa Rion oo aad u xanaaqsan kadib markii uu arkay sida ay Jihii u difaacayso Kanha, cadada darteedna wuxuu ciyaarayaa boxing si uu isku dhaafiyo xanaaqa. maalintii xigtayna waxaan arkaynaa Hira oo soo diray fariin Rion iyagoo weliba ku socdo qorshii ahayd inay iska dhigaan laba qof oo wada socda, isagoo Rion ku qasbanaaday inuu raaco qorshaha gabadhani soo dhigtay. waxaanay ku odhanaysaa wax qasab inaad maanta gurigeyga soo doonto, gaadhigaagana aan ku imaado iskuulka. markuu ka yeelana Hira aad ayuu farxaysaa. sidoo kale dhanka kalena waxaan arkaynaa Kanha u diyaargaroobay inuu iskuulka ku tago baaskiiladiisii yaray, laakiin markuu sidaa guriga uga soo baxo waxaa albaabka u taagan Jihii oo ku sugaysa gaadhina wadata. kadibna iskuulka ay isku raacayaan, baaskiiladiisina gaadhiga xaggiisa dambe ayaa lagu xidhayaa. markii gaadhiga la socdaana waxaan arkaynaa Kanha oo aad u farxsan, waana markiisii ugu horreysay ee uu baaskiiladiisana gaadhiga lagu xidho, sidoo kale isaguna gaadhiga uu la socdo. kadibna Jihii su'aal ayay ku bilaabaysaa ninkan, waxayna weydiinaysaa marka ugu horreysa halka uu ka keenay gacantan uu xidhan yahay. waxaanuu sheegay inay tahay gacan laysku siiya saaxiibtinimada oo lagu siiyey naadiga uu ku jiray biyaanada maalintii gurigooda ka garaacayay. waxaanuu sheegay in qof kasta oo ka mid a naadiga amaba kooxdu u xidhan yahay gacmahan oo kale. halkaana Jihii waxay ku joojinaysaa shakiga ay ka sheegsanayd Kanha. markii ugu horreysayna waxaa la isku arkay Kanha iyo Jihii oo soo raacay iskuulka isku soo raacay. dhammaanba ardaydii meesha maraysayna way ku sheekaysanayeen. Jihiina markay aragtay ardayda oo dhan ogaanayay gacantiisa sii qabsatayba, sidaas ayna ku galeen gudihii iskuulka. islaantii maamulaha ka hayd iskuulka ayaana ka soo horbaxday, labadooda gacanta is haysta. markay yaabtayna Kanha ayaa isjiri gacanta iska fur, laakiin Jihii waxay ku adkaysatay gacantiisa inay weli sii haysato. islaantan waxay u sheegtay inay waddada u bannayso, iyagoo gacanta is haystana waxay soo gelayaan galaaskii. galaaskan wuxuu ahaa galaaskii marka hore loo diiday Kanha, laakiin Jihii ayaa marka lacagta ka bixisay iyadana galaaska soo gelisay, iyadoo saddexdii arday kale ee aan Jihii ahayna ay dareemayeen cidhiidhi maadaama lagu soo daray in aan meesha u qalmin. markuu casharkii dhammaadayna Jihii iyo Kanha ayaa u warbaxay meeshan u iskaga tegeen. kadib Rion xanaaqsanaya isaguna doonaya inuu kasoo dababaxo, laakiin waxaa gacanta ku dhegtay Hira. Rionna gacanteeda ayuu iska furuuxan ku gacantay siida, ana u qaadan in xiriirkeenu yahay mid dhaba, kaliya weynu matalinay. kadibna markuu Kanha dibadda u soo baxo waxaan arkaynaa ardaydii markii hore difiri jirtay inay isaga rabaan bayna imika la hadlaan, oo xataa ardaygii scholarshipka ahayna u hanjabi jiray qol gooni ayuu geeyey. waxaanuu sheegay inuu la hadlayo, kadibna cagaha ayuu qabsadayba isagoona Kanha ka raaligelinaya wax walba uu hore ugu sameeyey. xataa wiilkan ay isku galaaska ahayeen wuxuu ka dalbanayaaba inuu ciqaabo wuxuuna ku sameeyo, maadaama aad uga cabsanayay Jihii faamilkooda, sababtoo aabihii ayaa u shaqeeyay faamilka Jihii. scholarshipkan halkaas ayuu ka helay. Kanhana ninkan hadalkiisa waxba kama soo qaadinba, laakiin wuxuu kula taliyey inuu noqdo qof bini'aadan halkii uu ay ka noqon lahaa. meeshana uu iskaga tegey. kadib waxaan arkaynaa Kanha oo tegey meeshii wax ku ridanaya amaba kabarhkiisii iskuulka ku lahaa. meeshana wuxuu ugu tegey fariin warqad ku qoran oo lagaga tegey. fariintanna waxaa loogu digayay inuu iska taxadiro amaba uu iska ilaaliyo Rion. weliba waxaa loo sii raacinayaa inuu mari doono waddadii walaalkii hadduu isa sii walwaalo. Kanhana wuxuu ogaanayaa inuu qof og yahay, qofka dhabta uu yahay, iyo weliba inay walaalayiin wiilkii dhintay hore loo dilay. kadibna meeshii waxaa yimid isagoo warqadii haya Rion. warqadii ayaanu ka qaaday. markuu warqadii akhriyeyna dhulka ayuu ku sii daayey. kadibna maryii lagu ciyaariyay ayuu xidhanayaa Rion, waxaanu tegayaa meesha kubadda ragbiga lagu ciyaaro. halkan wuxuu kula kulmayaa Jihii. Jihiina lama hadlayso, waxay tegaysaa halka ugu sarreysay la fadhiista garoonka, halkaasayna ciyaarta kala soconaysaa. waxayna halkaa ku arkaysaa Kanha oo fariin diraya isagoo la ballamaya qofkii u soo diray warqadan si uu ula hadlo. sidoo kale waxaan arkaynaa ninkii aliflaa galaaska ka ahaa oo daba socda, waxaana lagu yidhi Kanha daba socoyo halka uu marayo. kadibna waxaan arkaynaa ciyaarta oo bilaamatay. Rion kooxdiisuna si adag ayay u ciyaareen. Rionna sababta uu xoogga ugu ciyaariyay waxaa ahayd inuu tuso ama uu caddeeyo Jihii inuu yahay qof aan laga guulaysan karin. Jihii marka hore waxay muujiseen inuu haddana ka lahayn, laakiin haddana markay ciyaartu bilaamatay isaga oo keliya ay eegaysay iyo qaabka uu ciyaarayo. ugu dambeynna waxaa guulaystay tiimkii Rion. Jihiina arrintaasi isku mid ayay ahayd oo xataa wax reaction kamay bixin haddii uu guulaystay haddii kaleba, laakiin Ria ayaa aad ugu faraxday oo la dabaaldegtay. kadib waxaan arkaynaa wiil Ria jeclaa, kaasoo markuu isku arkay Rion iyo Ria aad u masayray. mootadiisa ayaanu meesha ku imanaya. Riana wuxuu ka codsanaya inay ku wada hadlaan meel kale,
kadibna meel cidla ay isla tegayaan. waxaan weydiinayaa sababta ay sidan ugu samaysay Rion ay uga raacday, laakiin si jees ay ugu odhanaysaa ayaan kaa raacay marka horena maxaynu isku hayn. isaguna uu iska xanaajinayaa, laakiin waxay u sheegaysaa wixii labadooda ka dhexeeyay inayna waxba ahayn, iminkana ay heshay jacaylkeedii dhabta ahaa oo weliba ay noqonayso boqoradda iskuulka maadaama ay la saaxiibtay wiilkii iskuulka ugu caansanaa. laakiin wiilkani kama daba hadhayo, waxaan u sheegay inuu mar walba daba socon doono, laakiin iyadoo digaysa waxay u sheegaysaa inuu ka daba hadho, iyaduna ay jeclayd qofkan iminka ay heshay waqti aad u dheer, isagana uu ka lacag badayay kana caansan yahay. intaa kadib waxaan arkaynaa Kanha oo la kulmay qofkii fariinta u reebay, kadibna waxaan halkaa ka ogaanaynaaba wiilkan fariinta u reebay inuu yahay wiilkii maalintii dafray iskuulka ee ay hore isku yaqaaneen, saaxiibkiisa ugu fiicanna ahaa. kadibna meel ayay wada fadhiisanayaan si ay wada hadlaan, laakiin weli waxaan arkaynaa in alifliigala isku daba socdo labadooda. wiilkan kalena wuxuu sheegayaa Kanha maalintii inaanu awoodin inuu la hadlo maadaama dadku ay ogaan lahaayeen inuu xiriir ka dhexeeya labadooda amaba ay saaxiib yihiin, laakiin Kanha wuxuu sheegay inaanay waxaas waxba ahayn ee uu ka caawiyo qaabkii uu shilka u galay walaalkii. Kanhana saaxiibkii waxa uu sheegay in shilkaasi aanu ahayn mid kama ee laga dambeeyey, booliiskuna aanu wax baadhisa ku samayn oo uu halkaa kaga hadhay. laakiin wiilka kale wuxuu sheegayaa Kanha in arrintan oo dhan ka dambeeyey siduu filay Rion, isaguna uu iskaga hadho oo arrintiisa aanu halis gelin. Kanhana wiilkan waxa ugu jawaabayaa maadaama imika ay garab taagan tahay Jeehi inuu rabo inuu soo saaro waxyaabaha xunxun ee ka dhacay iskuulka iyo siraha u qarsoon oo dhan. sidaa darteedna saaxiibkii wuxuu u sheegay inuu caawimo uga baahan yahay, saaxiibkiina wuu cabsaday, laakiin markii dambe uu iska yeelay. Kanhana wuxuu ka codsaday wiilkan inuu uga soo xado Rion baaswordka lagu furo qasanadiisa. Kanhana wuxuu weli ka shaksanaa in Rion uu ku qarinayo meesha daroogo, haddii uu ku qabtana waxay noqon doontaa caddayntii ugu weyneed ee uu helay. laakiin qorshahoodan oo dhan waxaa xagga dambe ka maqlayay aliflii galaaska la soo daba dhigay, inagoo weliba aan laynoo kala sheegin in ninka daba socda inuu yahay cadow iyaga ka soo horjeeda iyo inuu iyaga la jiro. fiidkiina waxaan arkaynaa Rion oo gurigooda kusoo noqday, waxaanu arkayaa gaadhigii Jeehi oo ka hor baarkin karaysan gurigooda. Jeehina gaadhiga ayay ku dhex jirtay, isaga inay la hadasha ayna rabtay, kadibna wuxuu sheegay inay guriga soo gasho si ay u wada hadlaan. kadibna waxay weydiinaysaa sababta dagaalka labadooda ka dhexeeya uu ugu soo dhex diray Hira, miskiinadana uu lugweynayo. waxayna u sheegaysaa in saaxiibadeed uu ka fogaado, laakiin wuxuu ugu jawaabayaa inaanu rabin inuu iyada wax u sharaxo imika. iyagoo wada hadlayna waxa soo wacaysaba Hira, moobilka markuu ka qabtana wuxuu sheegay inay guriga ugu timaado si ay Jeehi ugu sharaxdo waxa iyaga ka dhexeeya. Jeehina kadib guriga way iskaga soo baxaysaa, Hirana waxay iskaga hor imanayaan guriga albaabkiisa. Hirana waxay u sheegaysaa Jeehi in sida ay wax u moodaysa aanay u jirin. Jeehi ayaana ugu jawaabaysaa inaanay ninkan 100% isku hadlayn oo iska ilaaliso, iyaduna aanay wax kale ka rabin. kadibna Jeehi meesha way iskaga tegaysaa, Hirana guriga ay gudaha u soo gelaysaa, shaqaale ayaana soo dhaweynaya. waxayna arkaynaa in Hira aad ugu faraxsantay inay guriga gasho, xagga sare ayayna koraysaa iyadoo faraxsano sida boqorada u lugeynaysa. kadib waxaan arkaynaa Jeehi oo markii guriga tagta fariin loo soo dirayo, mar kalena waxaa fariin u soo diray ninkii uu hanjabayey, isagoo markana u soo diray fiideo ka duwan fiideogii hore ee uu ka hayay. waxaan uu sheegay inuu aabaheed u dhiibayo. Jeehina kadib halkaa waxay ka ogaanaysaa inuu ninkan fiideoyo badan ka hayo, aabaheedna uu wada tusi karo dhammaanba fiideoyada, aad ayayna warwaraysaa. Jeehina iyadoo fariintii ka jawaabaysa oo ninkii uu soo qoray weydiinaysa waxa uu ka rabo, waxaa albaabka ku soo garaacaya walaalkeedii yaraa, waxaan uu sheegay inuu aabaheed rabo. aabaheed ayay intaa kadib u tegaysaa qolka ayayna ugu gelaysaa. markay sidaa u fadhiisatana aabaheed wuxuu sheegay in guurkeeda diyaariyey oo maalin dhow la guursan doono. wiilka uu ku darayna wuxuu sheegay inuu yahay wiil uu dhalay nin gaangistara kaasoo waxbarasho Maraykanka soo dhameeyo imika ku soo noqonayo waddanka. aabaheedna wejigeeda ayuu ku dareemayaa inaanay ku qancin guurka oo aanay raalli ka ahayn, laakiin wuxuu sheegayaa in arooskan amaba guurkan uu ballan qaaday iyadoo uurka hooyadeed ku jirta oo aan soo dhalanba. laakiin Jeehi aabaheed iyadoo sila hadalka ka dhex gal wuxuu sheegay inay aamusto, hadalkiisoo keliyana dhegaysato, wuxuu doonayna ay aqbasho. Jeehina wax kale samaysan ma jirin inay aqbasho mooye. maalintii xigtana waxaan arkaynaa Jeehi oo iskuulkiisii tegaysa, marka albaabka sidaa uga baxdana waxaan arkaynaa Kanha uu ka hor sugayay gurigooda, isagoo marka raba inuu abaal gudo maadaama ay maalintii hore soo doontay gurigooda ka soo qaaday. isaguna markaanu raba inay baaskiladiisa la raacdo, kadib baaskiladiisa ayay la raacaysaa xagga dambe. waxaanu sii marinayaa meel cuntada laga cuno waddada dhinaceeda ku taalla si ay u sii quraacato, laakiin wejigeeda ayuu ka dareemayaa inaynay faraxsanayn. ugu dambeynna waxay u sheegaysaa wixii ku dhacay, iyadoona ka odhanaysa xidhiidhkeenu halkan ayuu ku joogsanayaa, maanta wixii ka dambeeyana ma wada socon karno. iyadoo rabta inaanu Kanha dhibaatoon, waxay ka odhanaysaa anigu kuma jecli kumana rabo, laakiin indhaheeda ayuu wax walba ka dareemayaa. waxaanu arkayaa inay cabsanayso sidoo kalena ay warwarayso. Kanha wuxuu isku dayay inuu xaaladeeda dejiyo, laakiin may aqbalin, meeshana way isaga kacday. markii habeenkii gaadhana waxaan arkaynaa Jeehi iyo Hira wada fadhiya. Jeehina waxay weydiinaysaa Hira halka uu marayo baaritaankii ay u dirtay ninka hakarka ah. Hirana waxay u sheegaysaa Jeehi inay hakarisku soo saari waayeen qofka kamarada haya, laakiin ay soo heleen oo keliya IP adresska laga soo diray message iyada loo soo dirayo. Hirana waxay isku daysay inay Jeehi raali geliso, waxayna u sheegtay maadaama xaaladu ay adkaayeen markii ay kala hadheen iyada iyo Rion, sababta darteedna ay u aqbashay inay la saaxiibto Rion weliba si ku meel gaadha. laakiin Jeehi waxay u sheegaysaa inayna arrintaa ka filin, gaar ahaan qof Hira oo kale saaxiibadeedii ugu dhaweyda, balse waxay ku odhanaysaa waxba kuuma qabo ee adiga ayaan kuu baqanayaa, iyadoo aan la isku halleyn karin ninka lagu magacaabo Rion. waxayna u sheegaysaa in iskaga fogaato. Jeehina markay intaa u sheegto meesha ayay iskaga kacaysaa wayna tegaysaa. dhanka kale waxaynu arkaynaa Kanha oo soo raaca amaba la socda ragga ay isku tiim
ka ahaayeen iyagoona markaan raba inay ka qayb galaan xaflad loogu talagalay dadka taajiriinta oo keliya kuwaas ay ardadoodu dhigato iskuulka jiishan lagu magacaabo laakiin kaan haye saaxiibadii waxay ku soo galeen si ay u garaacaan muusiga xafladda markuu xafladda sidaa u soo galana kaan ha wuxuu la kulmayaa jeeyi kadibna wuxuu la hadlayaa isagoo faraxsan jeeyina waxay la yaabisaa ninkan mar walba qoslaya faraxsan laakiin waxay weydiinaysaa in qosolkiisana ay ka dambeeyaan waxyaabo kale uu qarinayo waxaanuu sheegaya in wax sira oo qarinaya aanay jirin kadibna ma rumaysanaysa meeshan way iskaga tegaysaa waxayna sidoo kale arkaynaa riyon oo hooyadii la socda iyagoona ah kuwa xafladda qabanqaabiyey iskuulkan iyagu iska leh ugu dambeynna xafladdu way bilaabaysaa waxaana furaysaa riyon hooyadii xafladduna sidaas ay ku furmaysaa kadib waxaan arkaynaa hiiro aabaheed oo u imanaya iyada waxaanuu sheegayaa maadaama ay iyada jeeyihii saaxiib yihiin inay jeeyihii aabaheed kala hadasho si uu maalgelinna u helo laakiin hiira hadalkaa kama helayso meeshan waxaa soo maraysaba jeeyihii kadib way ka dabategaysaa fariintii aabaheed soo sheegayna way u sheegaysaa jeeyihiina way diidaysaa wayna iskaga dhaqaaqaysaa laakiin hiir waxay kaga daba tegaysaa meesha bathroomka iyadoo weydiinaysa sababta ay u diiday hiiro laftarkeedana waxaa ka muuqanaya walaac iyo werwer fara badan wayna ka murugoonaysaa markii jeeyihii meesha iskaga soo baxdana waxay barnaanka ku kulmayaan riyon isagoo u sheegay inay aad u qurux badan tahay laakiin xataa hadal kuma celinayso oo way dafiraysaa way iska dhaafaysaaba kadib waxaan arkaynaa jeeyihii aabaheed iyo weliba riyon hooyadii oo wada hadlaya meeshan waxaa soo istaagaya hiiro aabaheed dadkan uu ka hooseeya oo isku leefal maaha laakiin wuxuu isku dayaa inuu la hadlo hiiraana halkaas ay ka soo eegaysaa iyadoo ka walaacsan aabaheed halka kaanha oo iska tumanayey biyaanadii isagoo xoog u tumay hiiraana si ay xaaladda u dejiso waxay soo kaxaynaysaa kaanha iyadoo baraysa jeeyihii aabaheed waxayna ku odhanaysaa waa inantaada saaxiibkeed sidoo kale waxay u raacinaysaa inuu yahay arday ku dhigtay iskuulkooda scholarship dadka oo dhammi markay sidaa u maqlaan hadalka hiiraana dhammaantood way wada yaabayaan kadib jeeyihii aabaheed ayaa ku soo eegaya weji cadhaysan iyaduna way ka fororsanaysaa kaanha oo meesha taagnaa ayaa sidhi xaaladda deji markuu sidaas yidhi u hadalna jeeyihii aabaheed ayaa xasuusiyey waxaanu ku yidhi adiga hadal meeshan kaagama bannaana ugu dambaynna xafladdii qalalaa saas ayay ku dhammaatay cadhadaas kadib subaxii waxaan arkaynaa riyon oo gaadhi saaran oo sii socda ayaa wuxuu soo xasuusanayaa markii uu kaanha walaalkiisa yar shilka geliyey isagoo aan wax naxariisan u muujin markii uu shilku dhacayna riyon gaadhigii daaqad u jajabnaayeen uu ka her jirisiiyey uu soo kaxeeyey meel geerasha ayaan u dhigay si aan cidna u arag laakiin waxaan arkaynaa in riyon aanu ka qoomamaynaynba shilkaasuu geystay isagoo gaadhigii saaran oo fikrayna waxa soo wacday hooyadii waxayna u sheegtay inuu isdiyaariyo oo uu tegayo markii xafladdu sidaa u dhammaatayna waxay u buukin garaysay falaytka ugu horreeya si uu dibadda u tago oo wax u soo bartay iyadoo u raaco laakiin riyon muu xiiseynin inuu dibadda tago oo ku soo noolaado kadib habeenkii waxaan arkaynaa jeeyihii oo la hadlaysa aabaheed iyo weliba walaalkeedii yaraa aabaheedna wuxuu sheegayaa in aanay nolosheeda ku xidhiidhin dad aad u hooseeya oo liita walaalkeedii yaraana wuxuu bilaabaya inuu ka xaraabaysto oo iyada ku jeesteeso laakiin aabihi ayaa dharbaaxaya meeshan uu ka saarayaa kadib jeeyihii waxay bilaabaysaa inay aabaheed u sharaxdo waxaa ka dhexeeya iyadii kaanha waxaanay ka odhanaysaa keliya iskuulka ayaan ka caawiyaa wax xidhiidhoona ka dhexeeyaana ma jiro laakiin aabaheed wuxuu sheegayaa inay u naxdo wiilka yar naftiisa kadibna way warwaraysaa aabaheedna way raali gelinaysaa weliba waxay u sheegaysaa in iskaga hadhi doonto wiilka kaanha lagu magacaabo habeenkiina waxaan arkaynaa kaanha iyo saaxiibka oo si dhuumashaa ku soo galay qolkii maadaamuu saaxiibkii garanayay baa suudhka lagu furo khaanadda riyonna isaga ayuu soo kaxeeyey si ay u soo eegaan waxa ku jiro ay u soo hubsadaan markuu saaxiibkii sidaa meesha u furana kaanha wuxuu ku arkayaaba khaanadda sawirada jeeyihii oo la sawiran kaanha walaalkiis yaraa ee dhintay iyagoo weliba arkaya in jeeyihii ay aad u farxsan tahay markay ku jirto sawiradan waxaanu halkaa ka ogaanayaa in wakhtigeeda ay ugu farxadda badnayd ay ahayd wakhtiga ay la joogtay kaanha walaalkiis yaraa subax dambena waxaan arkaynaa riyon oo soo gaadhay iskuulka markuu gaadhigiisa sidaa uga soo degana waxaaba gacanta qabsanaysa oo ku hordaysa hiira haddana waxaan arkaynaa kaanha uu yimid jeeyihii si uu wax uga weydiiyo wixii habeenkii ugu dambeeyey xafladda ka dhacay jeeyihiina waxay isku dayday inay ninkan ka raaligelisa cayadii waa aabaheed caayey habeenkii laakiin kaanha waxba kama soo qaadin waxaanay u sheegtay inuu iyada ka fogaado meeshana way iskaga tagtay iyadoo sii socotana kaanha wuxuu weydiinayaa inay weli wax dareena u haysa riyon markay hadalkaas sidaa u maqashana jeeyihii aad ayay u xanaaqaysaa waxaanay u sheegaysaa in ay jiraan waxyaaba aanu isagu ahayn inuu ogaado laakiin kaanha uu iska qoslay hadalkeedana waxba kama soo qaadin maadaama uu rabay in isaga iyo jeeyihii ay sameeyaan xidhiidh rasmiya oo ka dhexeeya labadooda welibana uu isku dayayey inuu ka caawiyo iyada inay ilowdo riyon iyadoo la hadlaysana waxay dareemaysaa kaanha walaalkeedii yaraa iyada ay xidhiidhka hore uga dhexeeyey waxaanay ogaanaysaa in ay isku qaab u hadlayaan sidoo kalena xidhiidho badan ay labadooda ka dhexeeyaan oo meelo badan ay iskaga eeg yihiin laakiin weli is adkayn ayaa ku jirta maadaama ninkan ay u naxayso aabaheedna uu ku yidhi iskaga fogow ugu dambayntana waxay u sheegaysaa in labadooda ay aad u kala duwan yihiin isaguna uu ku noolaado noloshiisa oo labadooda wax ka dhexayn karaaba aanu jirin iyaduna dhankeeda ay ku noolaan doonto nolosheeda markay hadalka dhammaysatana meesha way iskaga tegaysaa kaanha oo taagan oo weli fikiraya muuqaalka xiga kadib waxaan arkaynaa kaanha saaxiibka oo librariga fadhiya waxaana u imanaya aliflii galaaska
markuu sidaa ula soo fadhiistana waxa uu weydiinayaa waxyaaba ka dhexeeya isaga iyo Kanha saaxiibkiina uu dafiraya oo wuxuu sheegay inaanay waxba ka dhexayn laakiin alifluhu ku soo qabanaya waxaanu sheegay inuu ku arkay meesha kafeteriyada laba qof oo fadhiya Kanha saaxiibkii markuu arkay inuu ninkan wax walba la socdana uu iska qiranaya waxaanu sheegayaa waxa ka dhexeeya isaga iyo Kanha laakiin wuxuu ka codsanayaa inaanu cidnaba u sheegin alifla galaaskuna wuxuu ka ballan qaadayaa inaanu cidna u sheegin intaa kadib waxaan arkaynaa Kanha oo loo soo diray fariin fiidiyowa taasoo ku duubanayay walaalkiis yaraa dhintay oo waqtigaas loo cagajugleynayay muuqaalna laga duubanayay isaguna aad ayuu xanaaqayaa waanu ka murgoonaya walaalkiisa yar isagoo meel iska fadhiyana waxa uu imanaysa Hira markay sidaa u soo istaagtana waxay ka codsanaysaa inuu iyadu mahadnaqo maadaama ay la kulansiisay Jay aabaheed waxaana sidoo kale u sheegaysaa inay aad u adag tahay inay dadka kale la hadlaan Jay aabaheed oo ah nin hantiilo dhayrdhayo lagu arag laakiin Kanha uu dareemaya amaba waxay sheegaysaa oo dhan ula socdaa waanu ogyahay inay rabto inay Jay ka xanaajiso amaba ay xaaladda ku adkaysay inay habeenkaa doonaysay Hirana kadib waxay bilaabaysaa inay ka sheekayso walaalkiis yaraa dhintay waxaanay ka odhanaysaa waxa laga yaabaa inaad hore u maqashay amaba aad ogtahay arday ku dhintay shil gaadhi oo iskuulka dhigan jiray waxayna u siraacinaysaa su'aal ah iyad u malaynaysaa inuu yahay qofka shilkiisa amaba dhimashadiisa ka dambeeyey Kanha wuxuu ugu jawaabayaa oo iska caday oo Rion ayaa ka dambeeyey laakiin waxay u sheegaysaa in Rion aan wax dambiye ku lahayn oo qofka ka dambeeyey dilkiisa ay ahayd Jay iyadoo Rion difaacaysana waxay odhanaysaa Rion waa qofka ugu sarreeyay iskuulka Jushan Group haddii qof ku xanaaqo oo wax ku dhufto wax iska caadiya weeye laakiin qofka ninka soo dhexgeliyey amaba rabay inay soo dhexgeliso dadka taajiriinta ah isagoo miskiin yar oo waxba haysan ah waxay ahayd Jay Hirana waxay rabtaa inay eedda oo dhan dusha ka saarto Jay iyadoo ka eedanaysa in miskiinkan ay ka waashay oo heer aan u gaadhsiisan inay gaadhsiisay sida darteedna uu ku dhintay iyadoo hadalka u sii wadana waxay u sheegaysaa xaaladda imkaad ku sugan tahay waa xaaladda wiilkaasi hore ugu sugnaa waxaanay u sheegaysaa inuu isilaaliyo oo uu ka taxadiro mar kale Kanha markuu hadalkan maqlay hadalkaasoo in Jay ahayd qofka ugu weyn ee sababtay inuu dhintay walaalkii aad ayuu murgoonayaa maalinta dambena waxaan arkaynaa iyadoo galaaskii la fadhiyo casharkii la dhiganayo Jay waxaa loo soo dirayaa fariintaasoo ah fiidiyo iyo weliba qosol dheer isla markiibana way warwaraysaa wayna ka baxaysaa galaaska laakiin waxaa ka daba baxaya Kanha isagoo raba inuu soo ogaado waxa ku dhacay markuu dibadda u soo baxo sidoo kalena waxaa ka soo daba baxaya Rion ayaa joojinayay Kanha kadib Kanha iyadoo soo socota waxay meesha ku soo maraysaa fariintii loo soo diray dheereeda qosolka ahayd oo ay soo dirayso macallimadii galaaska meesha taagnayd iyo weliba sidoo kale waxaa soo dirayay ninkii Wujan lagu magacaabayay ee macallimada la saaxiibka ahaa Jayna iyadoo aan ogeyn qofka soo diray way ag martay macallimadan iyadoo qosalaysa ayuu weli fariintii diraysay kadibna waxaan arkaynaa Rion oo bilaabay hadal Kanha Rion wuxuu u sheegayaa Kanha sababta ay Jay warwarsan tahay inay tahay in aabaheed uu ogaaday xiriirka labadooda ka dhexeeya waqti kastana uu labadooda kala fogeyn karo oo isaga wax ku samayn karo sidaa darteedna ay uga warwarsan tahay waxaan uu sheegayaa inaanu soo dhexgelin dadkan taajiriinta ah dhaqankooda iyo waxa ay samayn karaan aanu ka warhayn waxaana kadib soo istaagay labadooda Rion saaxiibadii markay sidaa u soo istaageen Kanha isagoo wax cabsiyaani ka muuqan ayuu wuxuu ka odhanayaa saddexdoodii oo meesha taagan ma waxaad igu samaynaysaan sidii aad ku samayseen ardaygii aad disheen sanad ka hor Rion oo sii socda ayaana hadalkiisa maqlay waanu ku soo noqday waxaanu sheegay qofka uu yahay isaga marka uu ka hadlayo arrintaas sababta uu sidaa u leeyahayna waxa weeye maadaama iskuulka laga mamnuucay in arrinta la soo hadal qaado Rion uu ka shakinayaa Kanha waxaanu u imanayaa ninkii Wuji lagu magacaabayay isagoo ka codsanaya inuu dabagalo oo uu soo baadho qofka dhabta ee uu yahay Kanha Rion weliba wuxuu la sii yaabanayay maadaama ardayda scholarshipka iskuulka ku dhigata oo dhamma ay isaga ka cabsato sababta uu Kanha ilaa imka isaga uga cabsan la'yahay ee uu ugu soo tagtaagan yahay kadib muuqaalka xiga waxaan arkaynaa Jay oo la kulmaysa Hira iyadoo markii ugu dambeysay ka codsanaysa inay wax saaxiibtinimo la samayso waxaanay weydiinaysaa inuu ninkii hackerka soo helay meesha uu joogo qofka fariinta iyadoo u soo diraya Hirana waxay u sheegaysaa inuu soo helay Hirana waxay u raacinaysaa in meesha laga soo diro fariimo iyada loo soo diraa ay tahay iskuulka laftarkiisa ama iskuulka Jushan Group markii ugu dambeysayna Hira waxay macasalaaminaysaa Jay iyadoo u sheegaysa saaxiibtinimadooda halkan ku eg tahay weliba sidoo kale waxay u qiranaysaa in ilaa kindergartenka ay jeclayd wiilka lagu magacaabo Rion laakiin dhanka kale Rion iyada aanu jeclayn ee uu Jay jeclaa sidaa darteedna iskaga daysay oo labadooda ay isku daysay Hirana waxay u sheegaysaa Jay in iskaga fogaato maadaama imka labadooda ay wada socdaan laakiin Jay waxay ugu jawaabaysaa in Hira ay tahay qof aad u indhala isaguna kaliya uu ku danaysanayo oo waxdana aanu imka iyada ka lahayn Jayna miiska way iskaga kaxaysaa meeshana way iskaga tegaysaa kadib waxaan arkaynaa Hira oo aad u murugaysan waxaanay soo xasuusanaysaa xidhiirkii ka dhexeeyay labadoodan maadaama ilaa yaraantooda ay saaxiib ahaayeen Hirana may kala garanayn in saaxiibadeeda intaasoo dhan ay saaxiibka soo ahaayeen ay uga tagto nin darteed iyo in kale Jayna habeenkii gurigooda ayay iska tegaysaa aabaheed ayana halkaa kula kulmaysaa aabaheedna wuxuu sii diyaariyey inay la kulanto ninka madaxweynaha ah ee uu rabo inuu ku daro wiilkiisa dabcanna Jay waqtigan may diidi karin
dalabka aabaheed sidaa darteed way aqbashay kadibna wuxuu u kaxeeyey inay la soo kulmaan ninkii madaxweynaha iyo wiilkiisii si ay ula soo casheeyaan kadibna waxay tegeen meeshii wayna la kulmeen wiilkii iyo odaygii labadooduba aad bay ugu faraxsanaayeen in Jay ay meesha ku arkaan maadaama wiilku aad uga helay gabadha sidoo kale odayguna uu ka helay maadaama ay arkeen in gabadhu ay tahay gabadh aad u qurux badan sidoo kale Jay iyo aabaheedna uu ku qancay wiilka odaygaasi dhalay waxaan ugu arkay inuu ku habboon yahay gabadhiisa odaygii iyo wiilkiisii iyo weliba Jay iyo aabaheedna si fiican ay wada sheekaysanayeen qofka kaliya meesha iska fadhiyay murugaysanaana waxay ahayd Jay intaa kadib Jay waxa uu kacday si ay u aado bathroomka markay sidaa uga soo baxday bathroomkiina wiilka ayaa ku sii sugayay dibadda waxaan uu sheegay inayna wax hadal la oran intii la fadhiyay meesha sida awgeed uu rabay in dibadda soo yar wareegaan oo ay soo wada sheekaystaan laakiin waxaynu arkaynaa Jay inay u soo dhacday fariin taasoo ay isku dayday in marka hore qariso fariinta loo soo dirayna waxay noqonaysaa sawir lagu tusayo qalabka lagu tijaabiyo uurka kaasoo muujinaya laba layn tan macnaheedu tahay inuu positive yahay gabadha lagu tijaabiyay ay uur leedahay iyadoo meesha taagan oo naxsanna waxa soo agstaagay wiilkii waxaan weydiinayaa waxa ku dhacay laakiin mar kaliya ay wiilkii matag dusha kaga keenaysaa maalinta xigtana waxaan arkaynaa in iskuulkii la soo galay Rion iyo Kanhana waxay arkayaan in Jay ay maqantay maanta oo aan galaaska iman Kanha isagu markiiba waxa uu ka soo raadiyay gurigooda markii uu waayay laakiin kaliya gurigooda uu hortaagnaa oo kaliya ma gali karin kadib markii Jay ay ma weyday maalmo far badan kadibna Rion oo xanaaqsan ayaa u yimid Kanha isagoo weydiiyay halka ay ku maqantay Jay waxaan u maleynayay inuu og yahay halka ay ku maqantay iyo waxa ku dhacayba laakiin hadalkiisa oo mu jawaabin Kanha Rion markuu sheegay waayay waxa dhacay iskaga tagay labadan wiilna waxba way soo heli waayeen laakiin labadoodaba waxa ka xariifsanaatay oo ka maskax badisay gabadhii Hira lagu magacaabayay iyadoona ballansatay Jay walaalkeedii ka yaraa halkaana waxa ka soo ogaatay macluumaad muhiim ah kadib habeenkii wixii ku dhacay Jay waxa lagu xiriyay gurigaasi inay ku jirtaa oo ay ku sugaysaa inay dibadda u dhoofto ama New York tagto Hirana kadib waxay imanaysaa guriga Rion markii soo gashana gudaha waxay ugu imanaysaa Rion oo warwarsan isagoo marar badan wacaya Jay laakiin telefoonka ayna ka qabanayn markii sida Hira ugu soo gashana warka ay u sheegaysaa waxaan u sheegaysaa in Jay ay tagayso New York Hirana wuxuu sheegaysaa maadaama labadooda xiriirkii ka dhaxeeyay uu dhamaaday inuu iyada chance siiyo laakiin Rion isaga wuxuu rabaa inuu tago guriga ay ku jirta Jay si uu soo arko kadibna waxaan ogaanaynaa in Rion uu ogaaday Kanha iyo wiilkii uu dilay inay walaal yihiin kadibna waxaan arkaynaa Kanha oo fariin loo soo dirayo Hira ayaana soo diraysa waxaan siinaysaa adreeska guriga lagu hayo Jay kadib adreeska ayuu soo raacaya waxaan u imanayaa guriga halkaan wuxuu kala kulmayaa Jay oo joogta markay sidaa u aragto way dafiraysaa waxayna ka odhanaysaa dibadda iskaga bax laakiin uu soo dabageliyaa oo kama hadhayo waxaan rabaa inuu ogaado waxa dhacay marka dambe way ku xanaaqaysaa waxayna ka odhanaysaa adigu anigii ma caawin kartid waxa jirana kama qarin karto waxaan u sheegaysaa in loo cagajugleeyay waxaan weydiinayaa sababta lagu cagajuglaynayo waxay ugu jawaabaysaa waayo waxaan dilay qof Jay weliba waxay u sheegaysaa qofka ay dishay magaciisa markay sidaa magaca ugu sheegtana isaguna sidoo kale wuxuu u qiranayaa in wiilka dhintay uu ahaa walaalkii markuu hadalka sidaa ugu sheegana Jay way eegaysaa oo kaliya waxay tiraahdaa inay garan waaysaa waxayna soo xasuusanaysaa waqti hore waqtigaas oo markii ugu horeysay ay la kulantay Kanha walaalkii ayaa waqtiga kubad ku soo tuuray isagoo aan arkayn Rion shaadkii ayaan ku wasakheeyay laakiin Rion wax talaaba ka muuqadin oo shaadkii intuu iska bixiyay oo dhulka ku tuuray markii uu iska tagayna inkastoo Rion uu meesha ka tagay laakiin weli haddana Rion saaxiibadii ayaan day wiilkii yaraa oo aad u garaacay waxaan ku qasbanaaday inuu meesha iskaga cararo markii eriyadeenna wuxuu ka galay librariga iskuulka waxaan halka ku arkay Jay oo iyaduna murugaysan halka joogta kadib markii walaalkeedii yaraa u hanjabay wiilkan yarna inkastoo isaga laftarkiisa la soo dhibaateeyey oo waxaan dareemayay haddana wuxuu isku dayay inuu dejiyo gabadhan xaaladeedana uu ka dhigay mid caadiya waxaanu siiyey nacnac dabcanna gabadha way ka qaadatay xaaladeedana way degtay halkaana way ku saaxiibeen oo saaxiib ayay noqdeen sidoo kale waxaa la arkayay Jay oo aad u faraxsan oo aad u dhool cadaynaysa laakiin waxaa meesha yimid Rion iyo saaxiibadii waxayna arkeen wiilkan yar oo Jay la fadhiya Rionna uu xanaaqay kadib Jay xasuusteeda ay ka soo noqonaysaa waxayna arkaynaa iyadu Kanha hortaagan waxaan u malaysay in Kanha ugu soo dhawaaday si uu ugu argudo walaalkiisa yaraa ee la dilay laakiin wuxuu sheegay in marka hore iskuulka uu soo galay si walaalkii ugu argudo iyadana ugu soo dhawaaday laakiin markii dambe uu ka helay qaab dhaqankeeda runtiina uu iyada jeclaaday waxaan u sheegay in imika uu runta iyada u sheegayo laakiin ma rumaysanayso dib ay inooga baxaysaa Kanha isagoo sila weli wax u sharax waxa meesha imanaya Rion labadooduna halkaas ay isku qabsanayaan maadaama Rion imika ogaaday inay walaalihiin wiilkii yaraa ee uu isagu dilay wuxuu ku qaylinayaa aniga iga argooso gabadha maxaad u haysataa anaa walaalkaa dilay waxaanu raacinayaa haddii aan rabin inaan ku dilay sidii walaalkaaga kale horteeda ka leexo Kanhana uu xanaaqayaa feer ayaanu ku bilaabayaa Rionna kadib dhankiisa ayuu isaguna iska soo difaacaya oo feer ay isla dhacayaan Kanhana dhulka ayaa la dhigayaa Jay markay aragto sida isku leynayaan waxay soo xasuusanaysaa Kanha walaalkeedii yaraa markii la dilayay aad ayayna u cabsanaysaa dhulka ayayna fadhiisanaysaa Rion ayaana Kanha meesha ka tuuraya isagoo arkaya Jay oo oysa laabta ayaanu gelinayaa Kanhana markuu soo kaco labadooda uu eegaya oo kaliya kadib muuqaalka xiga waxaan arkaynaa fiidkii monitorka ama alifley galaaska oo meel fadhiya waxaan
waxaanu qolo isku qarinayo ku daawanayaa waxyaaba laabtoonkiisa ugu jira isagoo urursaday macluumaad fara badan iyo siro badan oo ka hayo iskuulka waxaanu aliflaan ururiyey waxyaabaha xunxun ee iskuulka ka dhaca sida daroogada la kala wareejiyo iyo muuqaalo fara badan oo kale ayuu hayaa halkaana waxaynu ka ogaanaynaa in qofka fiidiyoyada u soo diray jeehi ee maalin walba ugu hanjabaa inuu yahay isaga kadibna waxaan arkaynaa jeehi oo ugu yeedhay kaanaha qol brifada iyadoona sheegtay inay la wadaagayso wax walba oo ku saabsan qaabka walaalkiisi yaraa uu ku dhintay waxaanay u sheegaysaa maalintii uu dabaaldegayay ninka wujiin lagu magacaabo xafladiisii sanad guurada in kaanaha walaalkii halkaa joogay waxaana garaacayay ragga ay riyon saaxiibka yihiin iyadoona xafladda lagu daandaansado aad loo garaacay kadibna wuu ka cararay meesha isagoo sii cararayna gaadhaya sidaa ku jira ay ku odhanaysaa jeyina kaanaha waxay u qiranaysaa inay iyadu dembi ku lahayd shilkaas maadaama iyadu raggan taajirinta ay miskiinka yar soo dhexgelisay waxaynan halkaa ka arkaynaa in sidoo kale ay difaacayso riyon oo ay sheegayso inaanay isagu waxba geysan maadaama kaanaha uu aaminsiiyey isagu in riyon waxaan o dhan ka dambeeyey halkaana kaanaha wuxuu ka ogaanayaa in jeygii ay weli wax dareena u hayso riyon oo ay weli jeceshahay markuu meesha kasii baxayana jeyi waxay u sheegaysaa iyadoo ilmaynaysaa inuu qof iskuulka maalin walba ugu hanjabo oo fiidiyoyo u soo diro jeyina kaanaha waxay ka codsanaysaa inuu soo saaro qofkaas laakiin waxaabuu ka odhanayaa waxaan jeclaan lahaaba qofka inaan la saaxiibo maadaama isku hadafaan nahay kadibna oohinayay ku beerlaxawsanaysaa kaanaha waxaanay ka odhanaysaa maanad adigu ballan qaadin inaad ilaalinayso kaanahana isagoon u jawaabin ayuu meesha iskaga tegayaa waxaan u sheegay inay tahay qof cadowa kadib subaxa dambe waxaynu arkaynaa jeyi faamilgeeda oo sii macasalaameynaya iyadoo yarboodka loo dirayo iyadoo tegaysa New York waxayna israacayaan ninkii guursanayey jeyina gaadhiga ay iska raacaysaa way iska tegaysaa kadib waxaan arkaynaa alifli galaaska oo loo soo diraya fariin waxaana u soo diraya kaanaha laftarkiisa isagoo weydiinaya halka uu ka keenay fiidiyoyada uu haysto halkaana waxaynu ka ogaanaa in kaanaha uu ogaaday in qofka jeyi fariimaha u soo dira ee maalin walba u hanjaba uu yahay aliflaa galaaska kadibna uu soo ag istaagayaaba kaanaha alifluuna indhaha ayuu taagaya isagoo baqanaya laakiin kaanaha ayaa u sheegay inaanu cabsan kaanahana kadib wuxuu u sheegaya qaabka uu ku ogaaday isaga waxaanu u sheegayaa inuu helay baashan isaga ka dhacday sidaana uu ku ogaaday qofka uu yahay kadibna aliflu uu qiranayaa waxaanu kaanahana wuxuu weydiinayaa waxa uu rabo inuu ogaado kaanahana kadib waxa uu sheegayaa inuu rabo inuu u dhiibo dhammaanba fiidiyoyada uu ka hayo dhanka madow ee iskuulkan iyo weliba siraha ku saabsan oo dhan kadibna waxaan arkaynaa laba gabdhood xafladda joogay kuwaasoo loo soo diray fariintan oo ahayd ninkii guursanayay jeyi oo lagu qabtay inuu isticmaalayo daroogo isagoo madaarka sii socda waxaynan ogaanaa in waxaan o dhan uu ka dambeeyey riyon si uu dib ugu soo celiyey jeyi kadibna waxaan arkaynaa in xafladdii uu soo gaadhay gaadhi aad u qaaliya waxaana kasoo degayay jeyi iyo riyon oo gacantaysa haysta dadkao dhan markay sidaa u arkaan sidoo kalena waxaa arkaysa hiira oo aad u niyad jabaysa waxaanay ka xumaanaysaa in riyon uu khiyaameeyey riyon wuxuu sheegayaa in iminka ay dib iskugu soo noqdeen jeyi iyo isagu kaanahana wuxuu uga digayaa inaan uu soo dhowaan jeyi mar dambe xafladdu markay dhammaatayna waxaan arkaynaa hiira oo kasoo dabacaraysa riyonna waxay ka odhanaysaa maxaad sidan igu gashay dabcanna jeyi oo ag taagnaydna way ku xanaaqaysaa waxaanay ka odhanaysaa wax walba waan lahaa adiga iga qaatay riyonna intuu soo dhawaadu ka odhanayaa istaji uuji oo ag taagnaana wuxuu ka odhanayaa guriga gee laakiin xanaaqeeda sii wadanaysaa waxaanay odhanaysaa waan ka argoosan doonaa waxaad igu samaysay riyonna jeyi ayuu ka odhanaya nakeen laakiin hiira way xanaaqaysaa wayna qaylinaysaa waxaana qabanaya oo kaxaynaya wujiin kadib waxaan arkaynaa riyon oo dib ugu celiyey jeyi guriga isagoona u diyaariyay casho yaro simbala jeyina waxay raaligelinaysaa riyon iyadoo ka raaligelinaysa waxyaabay uu ku eedeynayay kaanaha inkastoo aanu ogeyn qofka dilay kaanaha walaalkii laakiin waxay sheegaysaa in labadoodu ay mas-uuliyad ku leeyihiin dilkaas maadaama iyagoo ay bilaabeen nidaamka kala sarraynta ee ardaydu ay u kala sarraynaysa qaar taajiriina iyo qaar faqiiriina taasoo sababtay inuu dhinto kaanaha walaalkiisi yaraa ardayda faqiiriintaana la daandaansado mar walba la garaaco riyonna waxa ay sheegto o dhan wuu ku raacayaa waxaanu u sheegaya inuu raaligelinaya imkiiyo wixii ka dambeeya kadib waxaan arkaynaa iskuulkii jeyi oo eegaysa kaanaha oo sii socda isagoona dhexda ugu jira arday fara badan oo scholarshipa waxaan u geeyey meel dibadda iskuulka ka ah isagoo halkaa waxa ugu soo sheegayey kaanahana wuxuu meel iskugu keenay ardaydii daciifka ayada lagu cawaandiyoon jiray ee weliba ay daandaansan jireen ardayda taajiriintaahi hadalka ayaanu kaanaha u bilaabaya isagoo u sheegaya waxaad rabtaan in laydinla dhaqmo sida ayida oo kale idinkoo bili'aadana waxaan u sheegaya haddii ay rabaan inay u noolaadaan sida dadka caadiga oo kale inay sharaftooda ilaashadaan qofka sharaftiisuna hadday dhimato in wax kaloo u hadhay aanay jirin kaanaha laftarkiis waxa uu qiranayaa inuu dhammaantoodba ku danaystay si uu ugu argudo walaalkii laakiin wuxuu u raacinayaa inuu rabo iskuul cadaalada oo la siman yahay sidaa darteed wuxuu odhanayaa waa inaynu tashannaa qorshana aynu samaysanaa aliflii galaaska oo meesha taagnaa ayaana qorshaha usoo bandhigaya alifliina wuxuu iyaga u sheegayaa inuu hayo fiidiyoyo fara badan oo uu kasoo xaday xafiiska waxaanu rabaa inay taargadgareeyaan halka ugu sarraysay iskuulka si ay isbeddel muuqda u sameeyaan alifluuna wuxuu aadda ugu weyn saarayaa riyon iyo jeyi waxaanu ka odhanayaa labada qof ay ahayn labadii qof ee bilaabay in ardaydu kala sarrayso sidaa darteed fiidiyoyo fara badan ayaan ka hayaa
fiidiyodaas ayaynu soo dhignaa online-ka si cid walba u aragto laakiin kaanaha arrintaa uu ku diidayaa. Alifluun wuxuu ugu jawaabayaa sababta aad u diiday waxa weeye maadaama aad jeceshahay Jayhii. Alifluun wuxuu sheegayaa kaanaha haddii uu rabo inay sinaan dhacdo cadaalad la sameeyo waa inuu qalbi jilaaca iska daayaa dadka qaarna aanu u danayn oo xaqiiqada runta uu sheego iminkana ay hor taagan tahay oo kala dooranay jacaylkiisa iyo weliba cadaaladda uu iskuulka rabo inuu ka sameeyo. kadibna waxaan arkaynaa Hira oo meel fadhida waxa uu imanaya Jayhii walaalkeedii ka yaraa isagoona markan soo bandhigaya fiidyo uu ka hayo walaashii. waxaanu Hira u sheegaya inaanu ku guulaysanin walaashii uu iskaga diro dibadda maadaama wiilkan yar uu rabo in walaashii dibadda u diro oo isagu uu qaato waxyaabaha la siiyo oo dhan. Hira ayuu imid si uu fiidyogan u tuso maadaama uu ogyahay in labadooda ay is hayaan laakiin markii Hira muuqaalka sidaa u daawato ay aragto wiilkan yar dharbaaxa ay ku dhufanaysaa intii dibadda u soo saarto waxaanay ku odhanaysaa damirxumadayda heerkaas ma gaadhsiisana sidaadoo kale oo walaashii fiidyoyadeeda dadka tustusaya. Jayhii walaalkeedii yaraana u yaabay maadaama iyadu wax la rabayba laakiin Hira xumaanteedu intaasoo dhan inaanay gaadhsiisanayn ayay u muujisay. meeshana way iskaga tagtay iyadoo aan xataa fiidyoga cidna la wadaagin. beddelkeedana waxaabay aad uga xumaatay oo ay ka ilmaysay in Jayhii walaalkeedii yaraa sidaa u gelayo. maalinta xigtana kadib waxaan arkaynaa Jayhii oo gaadhka xasatay si ay u soo raadisay kaanaha. markay heshana waxay arkaysaa isagoo caawinaya islaan weyn oo duqa oo meel wax ku iibinaysa sidoo kalena waxay arkaysaa isagoo faraxsan oo ciyaal la ciyaaraya. Jayhiina mar keliya ay soo horsaagaysa isagoo aan arkayn kadibna way israacayaan meel ayna wada fadhiisanayaan. Jayhiina waxay weydiinaysaa sababtoo ninkani mar walba uu faraxsan yahay inkastoo aanu ahayn qof taajir oo lacag haysta. waxaan ugu jawaabayaa inaanu garanayn isaga laftarkiisu laakiin wuxuu sheegayaa inuu aaminsan yahay in haddii uu nolol farxad leh ku noolaado sidoo kalena dadka kalena uu farxad siin karo. markay soo wada sheekaystaana Jayhii way iskaga soo dhaqaaqaysaa iyadoo sii socotana waxaa ka daba imanaya kaanaha waxaanuu sheegayaa inuu helay qofkii fariimo u soo diri jiray iyadoo uu soo hanjabi jiray. kadib intaanuu sheegin Jayhii waxay weydiinaysaa sababta uu sidaa u samaynayey. kaanahana wuxuu ugu jawaabayaa inay isku sabab wax u samaynayeen oo qofkaasina rabay inuu cadaalad helo. kaanahana wuxuu sheegayaa in qofkaasi uu rabay inay ardaydu sinaato sidoo kale ardayda masaakiintaana aan la dulmin. sida darteed kaanaha wuxuu sheegayaa Jayhii in iminka uu helay caddaymo fara badan si uu u burburiyo kala sarraynta iskuulka ee heerarkiga loo yaqaano. maalintii xigtayna waxaan arkaynaa Jayhii oo aabaheed raacday buuraha si ay u soo ugaadhsadaan. aabaheedna Jayhii wuxuu baryay qaabka qoriga loo rido ee loo qabsado. waqtigan wuxuu ka codsanayay inay xabadda ku rido bakayle yaroo meesha taagnaa waxaanu dhegta ugu sheegayay inaanay wax naxariisa u muujin ugaarta laakiin Jayhii way awoodi weyday inay xabadda ku rido bakayle yar ay meesha marayay. aabaheedna way ku xanaaqday waxaana u sheegtay iminka iyo wixii ka dambeeyay inaanay mar dambe u soo raacin ugaadhsiga laakiin aabaheed wuu diiday qoriga ayaanu iyada ku soo jeediyey. waxaanuu sheegay wax kastoo dhaca inay qasab tahay inay amarka aabaheed qaadato oo weliba ay maqasho waxa uu u sheegayo. kadib xabadda ayuu ka qaaday dhanka kale ayaanu u riday. Jayhiina iyadoo xanaaqsanaya meesha ugaadhsiga isaga tagtay. kadib waxaan arkaynaa kaanaha u tegaya maamulihii iskuulka waxaanu u digayaa markii ugu dambeysay isagoona u sheegaya inay cadaalad ka samaysay iskuulka kala sarrayntana ay meesha ka saarto. weliba wuxuu ugu sii darayaa inuu hayo caddayn haddii ay fulin weyda amarkiisana uu iskuulka oo dhan soo bandhigayo. kadibna waxaan arkaynaa alflii galaaska oo ku soo cararay markuu dibadda u soo baxo kaanaha isagoo uga digaya sababta ugu hanjabay maamulaha iskuulka isagoon isaga la socodsiin. laakiin kaanaha wuxuu ugu jawaabayaa inay qasab tahay in tallaabo laga qaado sababtoo ah maamulka iskuulka iyo weliba macallimiinta ayaa u ogolaaday in ardayda lagu tunto. ki yaray aliflaana isagoo xanaaqsan ayuu kaanaha u sheegayaa inuu difaacayo Jayhii laakiin waxaa mar kaliya meeshii soo istaagaysa Jayhii isagoo ka yaraana aad u cabsanaya inay ogaato inuu yahay qofka isagu waxaan soo diray oo dhan. kadibna waxaan arkaynaa Hira oo foom buuxinaysa iyadoo dalbanaysa inay iskuulka iskaga baxdo. kadibna Hira waxay imanaysaa Jayhii waxayna isku daysaa inay ku qanciso inay iskuulka ka bixin laakiin Hira way xanaaqsanayd waxayna u sheegtay inay danaheeda raacdo. sidoo kalena waxay u sheegaysaa inay iyaduba og tahay fiidyoga laga duubay oo iyaduba aynay la wadaagin dhibaatooyinkeeda. iyadoo xanaaqsanna waxay u sheegaysaa Rion fiidyoga waxaanuu sheegaya inuu ogyahay fiidyoga qofkii soo diray inuu raadinayo laakiin waxay u raacinaysaa in qofka keliya guriga ageli kara lagaga duubay labadooda fiidyoga uu yahay Jayhii walaalkeedoo keliya. kadibna wuu tegayaa waxaanu aadayaa iskuulka si uu soo garaaco Jayhii walaalkeedii yaraa. markuu iskuulka sidaa u gaadhana wuxuu qol ku xidhanayaa Jayhii walaalkeedoo keliya ardaydii kalena meesha uu ka saarayaa. kadibna wuxuu bilaabayaa inuu garaaco. ardaydii oo dhanna way daawanayeen maadaama aanay istaajin karin laakiin kaanaha ayaa meesha yimid waxaanu ka qabtay ka yaraa. Rion isagoo xanaaqsan ayuu kaanaha kalarka ku dhigay. kaanahana wuxuu ka odhanayaa maxaa kusoo dhex geliya afaaraa dadka kale eed mar walba u xalisaa laakiin kaanaha wuxuu ugu jawaabayaa inaanu ogeyn xaaladda ay ku jirta Jayhii. waxaanu ka odhanayaa kama warhaysid xaalada ay ku sugan tahay gabadhu sidaa darteed waxaan kaa codsanayaa markii ugu horreysay inaad gabadha si fiican u ilaaliso. kadibna fiidka waxaan arkaynaa Hira gurigooda sii tegaysa. markii horena waxay ku tegi jirtay iskuulka gaadhi iminka waxay ku khasban tahay inay baska raacdo maadaama faamiligooda lacagtii ka maratay.
baska hore ayaana ka buuxsamaya waxaana ku qasbanaanaysaa inay ka dambe soo raacdo keligeed meesha istaagto markii guriga timaadan waxay ugu imanaysaa Jayhi oo gurigeedii joogta Hirana waxay u qaadanaysaa in Jayhi ay ku maadsanayso maadaama xaalad adag ay gashay laakiin waxay u sheegaysaa inay rabto inay saaxiibtinimadooda soo celiso iyagoo wada taaganna Hira waxa uu soo dhacay telefoon aabaheed ayaana soo wacaya waxaanu sheegay in kambanigoodii dib loo soo celinayo maadaama Jayhi familkeedu uu sponsor gareynayo kambaniga lacagtan uu ka bixinayo Hirana waxay kaliya u mahadnaqaysaa Jayhi maadaama aabaheed ay soo dhaafsatay codsiga ah inuu soo celiyo kambaniga Hira iyo iyaduna ay maqli doonto wax walba uu rabo sida darteed Jayhi waxa meesha u timid si ay u macasalaamisay Hira maadaama aabaheed dalabaadkiisa ay maqlayso ay dibadda tegayso markay Hira sidaa ugu timaaday gurigooda ku soo socotana waxa wadadu sii istaagay Rion markii gaariga ka soo degtay isagoo ilmeynaya wuxuu sheegay in wax walba ogaaday xaaladda ay ku jirto oo dhan uu la socdo isagoo ku calacalaya sababta ay uga qarisay waxaas oo dhan imika wixii ka dambeeyay wuxuu sheegay in aanay ka tagin oo isagoo ilaalin doono kadib muuqaalka xiga waxaan arkaynaa Alif Lee oo meel fadhiya waxaanu soo xasuusanayaa kan walaalkiisii Ray dhintay markii uu imid isagoo la daandaansanayo la garaacayo markaas oo uu la damqaday waliba qalbigana u qaboojiyay sida awgeedna wuxuu go'aansanay inuu u argudo oo uu soo dhigo fiidiyoga Rion iyo Jayhi online-ka markuu sidaas yiraahdo dhig waxa meesha imanay kan oo ka qabanaya moobilkan uu ka qaadaya waxaanu sheegay inaanay sidan ahayn sida saxda ah loo arkoosto kan wuxuu si raacinaya imse fiidiyoyada online-ka soo dhigi kartaa si aad u xalliso xaaladda ka jirta iskuulka laakiin Alif Lee ku adkaysanaya waxaanu sheegayaa inaanay waxaas oo dhan ku filnayn si loo ciqaabo ciyalka taajiriinta kadibna waxaan arkaynaa Rion oo soo galay saaxiibkii Wuji isagoo aad u ilmeynaya waxaanu sheegay in Jayhi ay dibadda aadayso oo aan u adkaysan karin xaaladeeda Wujina wuxuu iska dhigayaa inuu qalbiga u dejinayo saaxiibkii laakiin waxaan ogaanaynaa in Wuji uu ahaa qofkii ku qanciyay Jayhi aabaheed inay dibadda aado maxaa yeelay waxa dib loogu celinayaa waqti hore oo filimka ah waqtigaas oo ahaa waqtigii Wuji xafladda u dhiganayay dhalashada macallimada galaaska ayaan jaranjarada ku qabatay iyadoona rabtay inay siiso hadiyadiisii dhalashada labadooda wada taaganna waxaa arkaya kan walaalkii markuu sidaa u arkayna macallimadii ayaa soo carartay si ay Kayr ugu sharaxdo waxa jira oo labadoodana aanay waxba ka dhaxayn laakiin Kayr wax walba uu arkay dibadda ayaanu cararay macallimadiina way ka daba carartay markuu istaagi waayna gaadhay ka daba kaxaysatay Kayrna isagoo cabsanaya ayuu telefoonka walaalkii ka wacay walaalkiina uu ka qaban waayay kii yaraan isagoo wadada cararay waxaan arkaynaa in macallimadii ay gaadhiga ku dhufanayso bir ayaanu madaxa ku dhufanaya markay macallimadii gaadhiga ka degtay istiraado soo eegna waxay arkaysaa in qalin wax duubaya jaabada ugu jira oo kamarad leh waxayna ogaanaysaa in fiideo laga hayo sidaa darteed Kayr ma caawinayso halkaas ay ka tegaysaa si uu dhinto kadib filimku wuxuu ku soo noqonayaa waqti xaadirkan waxayna arkaynaa kan oo sii tegay xarunta booliska si uu u soo dacweeyo iskuulka inay u kala yaxanayaan ardayda taajiriinta iyo waliba ardayda faqiirinta iskuulka scholarship ku dhigata dabcan booliska uu yeedhaya si uu u baadho waxyaabahan dhammaantoodna way dafirayaan ardaydii iskuulka dhiganaysay kadib haddana waxaan arkaynaa kan oo iskuulkii ka soo baxay waxaana dibadda u sii taagnayd Jayhi isaguna uu ka xanaaqsanaa ice cream ayay usoo bandhigtay laakiin uu diiday laakiin marka dambe waxay u sheegaysaa inay Maraykanka tegayso sidaa darteedna ay rabto inay isagu macasalaamayso kan kadib caadi ayuu yara noqonayaa markay sii socotana wuxuu weydiinayaa in xataa waqti dambeba ahaatee ay marun isaga jeclaan doonto laakiin waxay u jawaabaysaa maya kadib maalinta dambe waxaan arkaynaa Jayhi oo kaxaysay Rion si ay u soo booqdaan qabriga wiilkii dhintay kan walaalahaayeen iyagoo ka dalbanaya inuu cafiyo kadibna waxaan arkaynaa in macallimadii loo yeedhay oo maamulihii u yeedhay waxayna u sheegtay inay qalad ahayd inay arday xiriir la samayso sidaa darteed waxaa loo sheegaya in iyadu shaqada ka tagto ay soo dalbato laakiin macallimadu way sii raadkeynaysaa islaanta maamulihiina waxay u sheegaysaa haddii ay samayn weydo inay soo bandhigi doonto shilka ay geysatay maamuluhuna weliba u sheegaysaa inay ogeyd inay iyadu dishay oo gaadhiga ay ku dhufatay kan walaalkii laakiin sababta ay u aamustay ahayd inay iskuulka sharaftiisa ilaalinaysay laakiin markay dibadda u soo baxdo waxay arkaysaa Wujan oo la taagan Hira kadibna way maseeraysaa gaadhay soo kaxaysanaysaa iyadoo sida labadooda ku dhufo waxa isku dhagaya Wujan markuu arkay in gabadhan ay waalan tahayna wuxuu go'aansanayaa inuu fashiliyo Jayhi ayaan u tegaya waxaan u dhiibayaa qalinkii kamaradu ku xidhnayd ee maalintii laga duubay waxaan u sheegayaa inuu si dhiibo kan si booliska loogu dhiibo gabadhana loo soo xidho marka booliska loo dhiibana askartu waxay tegaysaa si ay u soo qabato iyadoo si baxsanaysa ayna ka gaadhayaan kadibna waxaan arkaynaa in maalinta xigtay iskuulka oo dhan lagu qabanayo shir waxaana lagu casiliyaa ama lagu eriyaa islaantii maamulaha ka ahayd maxaa yeelay waxaa la ogaanayaa inay iyadu wax walba ogeyd laakiin ay aamustay ugu dambayntana waxaan arkaynaa Rion oo imanaya kan isagoo raba inuu raaligeliyo waxaan weliba rabaa inuu ka raaligeliyo dhibkii uu geystay walaalkii isagii saaxiibadii laakiin kan kama aqbalayo waanu ilmeynayaa waxaan u sheegayaa inuu ka fogeeyo walaalkii oo aanu cafin doonin kadibna waxaan arkaynaa Jayhi iyo Hira oo ismaca salaaminay markii ugu dambeysay Hirana Jayhi waxay u sheegaysaa inay aad u jeclayd weligeedba laakiin ay ka xumayd in iyadu mar walba ka fiicnayd marka ugu dambeysana Hira waxay ka codsanaysaa inay u soo noqoto waxaan ka odhanaysaa waan ku sugayaa Jayhina markii ugu dambeysay waxay u tegaysaa Rion si ay u soo macasalaamayso waxaan ka codsanaysaa inay markii ugu dambeysay wax soo wada cunaan waqti
fiican ayayna soo wada qaadanayaan, ice creamna way soo wada cabayaan, sidoo kale baaskiiladna way soo wada korayaan. kadibna jay iyadoo madaarka kusii socota ayaan arkaynaa, laakiin si kadisa waxa wadada u sii istaagaya kaanha. gaadhiga ayayna kasoo degaysaa. laabta ayaan u gelinaya, waxaan uga mahadnaqayaa wax walba ay u samaysay. hadalkiisa markay maqasho inuu cafiyin ay maqasho way ku farxaysaa. waxaan ku odhanaysaa markii hore been ayaan kuu sheegay ee laftarkayguba waan kaa helay. kadibna ugu dambeyn waxaan arkaynaa in iskuulkii isbedelay, sidoo kale ardaydii taajiriintana ay kibirkii joojiyeen, xaaladuna ay tahay mid wanaagsan. kaanhaana hadafkiisa ayuu gaadhay. aad ayaan u faraxsanaa, nolol fiicanna uu ku noolaa. muuqaalka ugu dambeyn waxaan arkaynaa jay oo farxad ku nool, xaaladeeduna ay isleeg tahay. saaxiibayaal, haddaba haddii aad taxanaan ka hesheen, waxaan idinka codsanaa inaad channelka subscribe saartaan, sidoo kalena muuqaalkan aad like saartaan si uu meel fog u gaadho. aad baad mahadsantiin.